السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارته هودنا نغلا سocotay ay ku soo dhawaada barnaamijkan TV-ga Universal ee haadjookaanu ku wareysan doono mudane Cabdiraxmaan Dheere oo asagu xildhibaan iminka ka dawladan jirta oo xildhibaan baarlamaan ka tirsan isla mar ahaantaana horey u ahaan jiray wasiir ku-xigeenkii gaashaandhigga dawladii Saacid. waxaanu kaloo wareysan doonaa haddii Allah awood la yiraahdo afhayeenka ciidamada Amazon Cali Xaamud oo asagu khadka taleefanka nagala qayb qaadan doona haddii Allah yiraahdo inkastoo ay ahayd inuu stuudiyaheena magaalada Muqdisho live u soo fariiso idinkuna aad su'aalo toos u weydiisaan hase yeeshee xaalad amni awgeed oo aanan garanayn waxay tahay ayay arrintaas ku suurtageli weyday laakiin wuxuu naga ogolaaday inuu ka jawaabo su'aalo dhowr oo ku wajahan kufsiga iyo tacadiyada ciidamada qalaad ee dhulka hooyo jooga ay u geystaan hooyooyinka Soomaaliyeed iyo gabdhaha yararka saqiirada qaarkood 12 jir ay yihiin. maalintii isniinta ahayd ayay hay'adda xuquuqul insaanku waxay soo saartay ribood aad u dheer oo meelo kala duwan taabanaya kagana warramaya ciidamada Amazon tacadiyada ay u geystaan dumarka Soomaaliyeed ayagoo si wadareeda mararka qaarkood u kufsada jirdin la ku sameeyo markay kufsanayaan qaarkoodna ay diideen xataa inay xirtaan sharabaadaha raggu ay shahwadooda ku xifdiyaan xilliga ay galmada sameynayaan waa waxa loo yaqaan condomka. gabdhahaas ayaa sidaas loo bahdilay loona jirdilay dadka ka shaqeeyana waxa kamid ah shaqaale Soomaaliyeed oo ayagoo sheegay inay u turjumaan ciidamada Amazon kuwaas oo dumarkaas soo daba oo soo xirageliya dabadeedna ugu geeyay ciidamada qalaad ee Afrikaanka gaar ahaan Ugandayska iyo Burundi xarumahooda Muqdisho ku yaala halkaas oo dumar Soomaaliyeed oo faraha ka badan ay ku faraxumeeyeen ayna ku jirto gabar yar oo 12 jir ah oo saqiir ah. haddaba arrintaas ayaanu insha Allah tacaala ka wareysan doonaa mas'uuliyiinta idinkuna khadka taleefanka iyo aaladda Twitterka iyo waliba waxaad uga qayb qaadan doontaan haddii aan la yiraahdo emailka shaashada ku yaala a.hafida.tv.universal.net dhinaca kalena waxaanu idin tusay doonaa reportkii oo af Ingiriisi dabadeedna insha Allah tacaala asigoo turjuman baanu idin haynaayo Soomaaliya balse marka horeysa waxaan jecelahay martideeda khaaska mudane Cabdiraxmaan Dheere inaan ku soo dhaweeyo oo xildhibaan dawladda ka tirsan mudane soo dhawo ما سنتاي سنة وسا وشيء برامج كان. واقرتي. مثلاً هذه أن كوجو بلعبة هذيك بخشة هذا الإنجليز كأد كوجوكين ما مس شقاء مسوا مد هذيك هو خاص. كنت بخشة أن كوجو مقالة لندن مركو هذا مركل بعد منا معها دور مرة هران يميد أنا بخشة يميد حلية ذا برمان كده فصح وكوجي وقتها فصح حسب حوقفة السنة دي هل كان واحد جو وقتين كوميونتي في ربنا الصومالية oo runtii u baahan in maaragtay beel laga siiyo dalkii dadkii iyo xaaladda guud marka howlahaas iyo howlo kale oo aniga gaar ah labadaas waa u yimid haddii aanu intaa halkaa kaga gudubno xaaladda dalku waa mid si amaanta runta Cabdixafiidowda dalku warku kuma saagana warku waa dalku hadda waa laga warqabaa runtii intaan ka warqabane sanadkii hore iyo sanadkan isku mid maaha waxaad ogtahay xag horumarka xagga amniga in runtii meel fiican dalka maanta uu marayo oo nimanka nabadiidka ay ka sii baxayaan ama ka sii dhamaanayaan gobolada dalka waxaad arkaysaa horumarka ka muuqda magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kaleba ee ku saabsan xagga nolosha bini'aadanka inay soo noqonayso sidii wadooyinka dib loo habeeyay ganacsiga oo dib maaragtay xoog u sii yeelanaya waxaan is leeyahay rajada maanta Soomaaliya ka jirto runtii aad ay u sareysaa waxaan oga mahadnaqaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala thumma ciidamadii qalabka siday iyo ciidamada kaalmeynaya ee Afrikaanka ka yimid oo runtii dadaal dheeraad ku baxshay iyo madaxda qaranka runtii oo ayaguna qorshaha iyo maskaxda ka dambaysa runtii in waxaas ay hirgalaan ayaguna waa ugu hambaleynaynaa laakiin waxaan is leeyahay Soomaaliya maanta runtii wadada horumarka iyo cagta saartay waan rajeynayaa insha Allah ta'aala caqabadka yararka oo inta laga gudbo in hore loo socon doono واقرتي waxaa khad ku jira Cornel Xaamud oo jecel inaan ku soo dhaweeyo Cornel Cali Xaamud ma maqashaa waan ku maqlaa waana mahadsantahay aad baan ku soo dhaweynayaa waana kaaga mahadcelinayaa qayb qaadashada barnaamijkan waxa tahay afhayeenka ciidamada Amazon oo kufsi iyo tacadiyad u geystay dumarka Soomaaliyeed oo ay ku jiraan gabdho yar yar oo 12 jir ah warkii ay soo saartay hay'adda xuquuqul insaanka maalintii isniinta ahayd arrinta maxaad ka ogtahay adigu walaal horta waad mahadsan tahay
arrintaasina sida aad u maqasheen baan u maqalnay waana soo gaadhay aad baan uga xunnahay arrimaha caynkaas oo kale inay dhacaan waxaan se kaleenahay iminka ahaan annagu wax haba yaraatee arrintaasi dacwad oo naga soo gaadhay oo eed nalaga sheeganayo moojaane tu aan annagu maanta hubno oo wax kasta way dhici karaan nin kasta xorriyad uu leeyahay oo uu ku hadlo hay-adaasi waa hay-ad aad aan u qiimeynayno sharafteedii leh hay-adda Human Rights Watch reportka samaysay waxa si cajiiba magaca amisom inaa caynkaa loo fashiliyo oo loo ceedeeyo maaha annaka dembi aan leenahay uun baana qabanaya haddii ay soo wareysatay oo ummadda waxay kasoo maqashay in la khubsado oo de ninkii laga cabanayo la dhagaysto weeyaan hadalkaygu waa cad yahay haba yaraatee arrintani wax magacanaka wax noo dhimaya maaha wax sharafteeda meel kaga dhacayo mana jeclinaysaa rallo waxaad moodaa inaad danaynaysid magaca Amazon inaad difaacdid oo sumcaddooda aad waardiyeysid markay gabdhaha yararka Soomaaliyeed xerooyinka Burundi iyo Uganda ay intay xabadda foorka ka saaraan 10 ay u fuulaan xataa ay diideen inay condom xirtaan sumcadda aad cishanaysid oo waardiyeysanaysid maysan gabadha Soomaaliyeed sumcad ka mudnayn adiga haba yaraatee waxaasoo kale wax dhici karaya maaha boqolaal dumara iyo gabdho leh oo ragna leh iyo maalin kasta xerooyinka ciidamada Amisom lagu daweeyaa oo dhakhtar xitaa u yimaada meelo badan oo yimaadiin baa jirta cases horo sidaasoo kale naloogu ceebeeyey waan ka daba tagnay annaka iyo dowladda Soomaaliya wasaaradaheegu waan u fadhiisanay guddi baa loo sameeyey waa la baaray baaritaankii wax ka soo baxay waa la ogyahay waxaan jecelahay haddaba sidaas oo kale inta aanan sidaasaa jirta iyo sidaasaa jirta la oran in annaka inta nala eedeyn nala ogeysiiyo iyaa ficnayd annaku cali raalli noqo markaad leedahay in nala ogeysiiyaa ficnayd ma waxaad doonaysaa in inta dhegta lagugu sheegay idinku aad xeer hoosaad ku xalisaan sida sumcadda Amazon aysan u xumaaninin mise hay-adda xuquuqul insaanka aad ku tuhmaysaa inay been sheegayso maxaa yeelay kaysaska ay report gareeyeen waa kuwa ay la hadleen dadkii dhibaatadu soo gaartay xerooyinka Burundi iyo waxayna ka dhaceen Uganda waxaan jeclaynaa ku akhriyo mid iyo laba kamid ah dumarka ay kufsadeen ee faraxumeynta u geeyeen waxay ka soo qoreen haweeney Soomaaliyeed oo magaceeda ayaana lagu soo koobay ayaa kamid ahayd dadkii xerada tagay subaxyada kamid ah ayada oo doonaysa daawo u raadinaysa ilmo yar ay dhashay waxaadna qiyaasi kartaa maadaama barakacayaasha ay kamid tahay inaysan qadaynin quraacan baad qiyaasi kartaa laakiin xanuunka ilmaheeda haya ayaa xerada geeyey markii xerada ay tagtayna dhafoorka ayay ciidamada Burundi waxay ka saareen xabad dabadeedna ayagoo guruuba ayay fuuleen banaanka ayayna markaa u soo direen banaanka markay u soo baxday ayay banaanka intaysan soo bixin dhinaceeda waxa kale oo lagu kufsaday saddex kale oo dumara oo isku meel lagu kufsaday saddexdaasna waxa loo geystay jirdil markay diideen in la fuulo oo hilibkooda ceeriinka lagu boobo ay diideen jirdil bay u geysteen ciidamada Burundi halkaas saddexda dumarka mid kamid ah ayaa dhaawacii jirdilka iyo kufsiga ay u geysteen awgeed istaagi kari weyday dabadeedna gabdhihii kale ayaa soo qaaday xerada banaankeeda markay yimaadeen ciidamadii kufsaday waxay sameeyeen arrintan foosho xun ee wuxuushnimada ay soo socota arrintaas oo inay siiyeen xoogaa yar oo boorasha oo ku jira bac yara iyo in yar oo cookie waxay yiraahdaan ama biscuit ah iyo $5 waxaana lagu yiri cidna ha u sheegin in arrinta dhacday arrintaas inaysan dhicin ma adigu sheegaysaa waxaasoo dhan waxba kama jiraan see ku ogaatay inay waxba ka jirin waxba kama jiraan see ku ogaatay halo maadaa xerada joogay see ku ogaatay cali halo waa ku maqlaa xerada miyaad joogtay see ku ogaatay inaysan jirinin waxa weeyaan anu mar kastaba waan hadlayaa laakiin meel kasta wax ka dhacaan ma joogo waxaan see ognahay meel kasta oo subax kasta situationka jira reportyaal na soo gaara waa jiraan nin kastana oo meeshaa joogay wuxuu og yahay
xeerka adag ee sugaya qaban doona haddii waxyaalaha tacadiga caynkaasa uu sameeyo oo bani aadanka meel kaga dhaco Soomaalidu waxay leeyihiin xeer gaara dhaqan gaara oo dadka u soo sheegno ka dhaadhicino dumar iyo xoolaba Soomaalidu inay aad u qiimeeyaan khaasatan cali waxaan ku weydiiyay dumarkii xoolaha waa soo noqonaynaa adigu sidee ku ogaatay ciidamada Uganda iyo Burundi inaysan kufsanin oo arinta human rights ku ay sheegayaan ay been tahay seed ku xaqiijin kartaa arinta adigu anigu waxaan ku xaqiijinayaa waxaan sameynaa commission baan sameynaa waxaan sameynaa ergo fadhiisata oo meesha wax laga soo sheego maadaama haddii ay wax jiraan amisa madaxdeeda African Unionka yaa la soo gaarsiin lahaa isla markaaba waxaa jira sharci la qabanayo ninkii tacaddi caynkaas geysta sharcigii qabanayo uu yaala su'aashan ku weydiiyay waxay ahayd adigu sideed ku ogaatay maadaama aad noo sheegtay barnaamijkan intaanu ku guda jirnay xero walba inaadan joogin oo waxa ka dhacaya aadan ogaan karinin seed ku ogaatay inay human rights ku been sheegayaan oo gabdhahan masaakiinta saqiiradu ay ku jiraan iyo hooyooyinka tobanka loo fuulaya ay been sheegayaan ciidamada Amazon ay run sheegayaan ciidamada Amazon ma qaldami karaan ma oranayo waxaan se imika la sheegayo waa nala ogeysiin lahaa waa nalaga wargelin lahaa inta fashilaada caynkana la sameyn xeerkii qabanaya uu jira dad aanan qaldamin ma jiro qof uu qaldami karaa laakiin arintani kutirikuteen bay u badan tahay cali kulay waa ra'yigaaga kutirikuteen waxaan u malaynayaa arrintaas inay caro gelinayso malaayiin Soomaaliya oo banaanka joogta waxaa tiri Amazon waa dad la xisaabtamaya waxaan ognahay dawladda Soomaaliya inay tahay dawlad aan awood lahayn haba yaraatee wax jurisdiction ah oo ay ku leedahay ciidamada Amazon aan lahayn idinma amri karto wax idinma sheegi karaan waxaad idinku doontaan baad fulisaan dawladaha idinku aad ka timaadeen ayaana mas'uuliyadiina qaadaya dawladda Soomaaliya waa midaan awood lahayn aan ka hadli karinin falalka foosha xun oo kufsiga iyo tacadiyada iyo jirdilka ay sameeyaan taasina waxay idin ogolaanaysaa inaad qarisaan ciddii markaa dhibaato keento dhagteen wax leen kugu sheegaa doonaysaan haddii aan arrintan ku akhriyo si degdeg ah waxay sheegeen Human Rights Watch doogu inay jiraan kaysas badan oo hore leedin kugu keenay ay kamid tahay gabadhii yarayd ee 12 sano jirtay ee askariga Ugandayska oo fuulay banaanka magaalada Baydhabo ama geesaheeda meel ah ilaa iyo haatan ninka maxkamad aan la soo istaajinin maxaa yeelay maxkamadii ku taalay Uganda ay lahayd ee magaalada Muqdisho ku taalay waxa loo raray dalka Uganda loo raray sidaasna waxay dhalin kartaa in ciidamadu waxay sameeyaan wadankooda lagu qaado gabadha yarna waligeeda aysan cadaalad helin adiguna aad la taagan tahay ciidamada Amazon waxba ma kufsadaan haddana aad leedahay meel walba anigu ma joogo wax ma ogi timahaagu dhinaca wada xirmaan waad mahadsan tahay hadalkuna wuxuu leeyahay xiisadiisii buu leeyahay baan u malaynayaa laakiin lama qaldami karo baan ku iri qof kasta uu qaldami karaa baan ka iri laakiin qaladkii aan ogaanay waxbaan ka oranaynaa sharcina waan la tiigsanaynaa baan ku iri dawladda Soomaaliyana waan kala tashanaa waxaan qaadanayno laakiin dawladdu awood ma lahan علي دولة أود كمالها عيدمada Amazon wax jurisdiction ay ku leedahay dawladda Soomaaliyeed ma jirto haba yaraatee dawladda Soomaaliya waa dawlad la garanayo oo iyadu meelo kale ka hadli karaysa haddii ay ciidamada Amazon ay amarkeega qaadan weydo meelo ay ka hadli karayso waa jiraan waad ogtihiin waa dawlad caalamku maanta xaqiiqsan yahay kursi kasta oo ku fadhiisato way leedahay meel kasta oo hay'ad kasta ay tagto haddii Amazon ay sida ay Amazon u timid amba ay wax ka qabto waxay ka sheegan karto meelaha ay ku sheegan karto iyo sharcigii ay ku sheeganaysay wuu jira taa la iskuma hayo imika waxa weeyaan wixii hadday wax dhaceen ujeedada aan murtida meesha inaan ka gaarsiiyo dadka aan doonayo iyo xiisada Soomaalida maanta maskaxdooda la gashay inaan ka dajiyo aan doonayo علي ما يسن قفقوا هنا ترى الحيصد ويا مركي ولا شاء كفصدي gabadha Soomaalida waa walaashay weeyaan cod ay ku hadasho maanta ma lahan xerada Uganda joogta ama Burundi 20 kan in ay fuulayso adiguna aad leedahay wax jira maahan marka aad leedahay waa xiisad maahan waa xaqiiqo jirta hay'adaanuna waa hay'ad credible ah oo dunida aqoonsan tahay waxay been ogaga sheegaan ciidamada Amazon ma jirto marka inaad tiraahdo waa xiisad
ayada laftigeeda maysan gaf iyo meel ka dhac kugu ahayn adiga anu soomaalida inaan meel kaga dhaco ma jecli marka gabdhaha soomaaliyeed la kufsado ma ku danqinaysa adiga hay-adani maanta qalab iyo gaf bay ka gashay amisom haddii ayna arrintan oo kale ay iyadoo ogeysiin fashilaada caynkan ay geysanayso isku dir iyo dib iyaa laga dhaxalkaya cali waxaad moodaa inaadan waxyaalo badan la soconin oo aad ka dhacsan tahay hay-addaanu waxay tagtay headquarterkiina Addis Ababa ayay tagtay reportkan oo buuxana fartaa laga saaray laakiin adigu lama socotid baan u malaynaya waan la socdaa reportkana sheegay maxaad haddaa u leedahay nalooma keenin oo kama warqabno nalooma sheegin oo waa nala fadeexadeeyey intaan reportkan la sii daynin headquarterkiina la geeyey headquarterka marka la geeyo waxaa jirta investigation buu sameeyaa ciidankanna amisom isaguna wuxuu leeyahay inquiry board buu sameeyaa arrintaa waa ka tashanaa waxna waa ka soo dhiibaa laakiin kiis kale hore idinkugu maqnaayo gabadha yartaa 12 jirtay ee baydhabo magaalada baydhabo lagu kufsaday askarigii 2000 kufsaday ilaa ay haatan maxkamad lama soo taagin faylkiisi unbaa maxkamadda la keenay kalsoonida lagu qabi karo ciidamada Amazon ee dawladaha banaanka jooga maxkamadaha ay wax ku saarayaan waa mid aad iyo aad u daciifa Soomaaliyeed oo dadka Soomaaliyeed aan u cuntami karin in dad badanba dadka Soomaaliyeed maanta abaal badan bay ku leeyihiin amisomna abaal badan bay ku qabtaa shacabka Soomaaliyeed oo wax badan bay ka taageeraan maanta arrinka caynkani hadduu dhaco wax weeyaan xal loo helayo Soomaalidu caaday lahayd dhaqan bay lahayd xeer bay lahayd laakiin foolxumada intan leegi foolxumo loo dul qaadan karayo maaha baan ku leeyahay waxaan ogol lahay maaha inay dhacaan waxa weeyaan wixii laga ka badbadisinay meesha ku jirto taasi waa hubaal weeyaan waxaan anigu akhrinayaa reportkii ay soo qoreen baan hayaa asagoo videona mar dhowaan soo deynaya asagoo qoran oo waxbana lagu darin baan hayaa marka waxa ay sameeyeenna waa wax ayagu ay soo qoreen oo ay sheegeen case kale aan ku akhrinayaa oo xanuun fara badan ku haya dadka Soomaaliyeed adigu laakiin laga yaabo maaragtay sidoo dadka u dhibay inuusan ku dhibaynin maxaa yeelay shaqadaadu waxay tahay oo lacag lagugu siiyaa askari aad ku tahay inaad difaacdid sumcadda iyo karaamada ciidamada Amazon oo marnaba aadan dhaliil iyo eed u soo jeedin dabcan waxa ka mid ah caseska lagu eedeynayo hooyo Soomaaliyeed oo kale oo iyaduna dhibaatadaas oo kale haysatay ayaa waxay timid xerada iyadoo barayaysa raashin ama dawarsanaysa inay maaragtay la siiyo raashin iyo daawo dabadeedna nin Soomaaliya oo turjumaya ayaa wuxuu ku yiri waxa timaada xerada qaybta dambe ima oo daawada laga bixiyo markuu halka ay timid gabadhii hooyada ahayd oo dhibaataysnayd oo cuntada bariyaysa ama dawarsanaysayna maqsin baa la yiri gal maqsinkii markay gashayna waxay u gashay nin Amazon oo doonaya inuu kufsado oo moodayay in la soo diyaariyay oo ayaduna diyaar ay u tahay inuu kufsado ma waxa leedahay arrintaas uma jirto Your card has now expired. hagaag kaas waxa uu ahaa cali xaamud afhayeenka ciidamada Amazon waxaan jecelnahay khadka taleefanka inuu dib ugu soo noqdo kaas u malayn ma inaan kala dhamaanayno cabdiraxmaan maxaa kaaga baxay cabdixafiido waa mahadsan tahay runtii afhayeenkuna runtii waa mahadsan yahay waxa iiga baxay runtii waxa waaye horta guud ahaan arrintan annaga laftigeena xanuun badan ay nagu haysaa waana ka xunnahay runtii gabar Soomaaliyeed oo ciidamada Amazon ay u joogeen inay maaragtay dhibaato haysato oo kale oo amni inay ka dulqaadaan inay haddana duruufo kale oo saas ay la kulmaan runtii waa wax xanuun badan oo annaga laftigeena dareenkeena runtii ma qiyaasi karno sida ay arrintaa ku dhacday hay-addan hadda saa u sheegtay reportkan waa report hadda runtii soo baxay Amazon waa afhayeenkeedii jawaabay oo cali xaamud oo runtii si sax ah kugu jawaabay laakiin adiga kula tahay inay sax tahay sidoo asaga u jawaabay laakiin anigu waxay ila tahay mas'uuliyadda shacabka Soomaaliyeed waxa iska leh xukuumadda Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan waxa laga rabaa arrintan inay xaqiijiyaan oo daba galaan oo ogaadaan waa xukuumadda Soomaaliya oo Prime Ministerka madaxweyne ka yahay Cabdiwali waxa laga rabaa in arrintaas soo xaqiijiyaan guddi loo saaro la soo ogaado waxa ka jira iyo waxaan ka jirin wixii ka jira haday soo baxaan xisaabtanka waxa iska leh dawladda Soomaaliya la xisaabtanta Amazon oo gabadha Soomaaliyeed ee miskiinta ee dhibaataysan
duruufta haystay in looga faa'iidaystay in dhibaato kale lagu sameeyo runtii waxaan isleeyahay arrintaas waa laga daba tegi doonaa annaga kan baarlamaan ahaanna xukuumadda waa kula xisaabtami doonaa inay arrintaas war sax oo xaqiiqa ay ka keento maxaa yeele hadda hay-adaa soo qortay hay-adda warkan ma jiraa ma saxba ama beenba waxay u baahan tahay in lasoo xaqiijiyo amison afeenkeeda u jeeda hadda waa dafri wuxuu yidhi waxa annaga shaqo kuma lihin oo waxaan maaragtay geysanay maaha inkastoon ogahay dee wax badan oo duruufaa uusan ka warqabi karin xaamud inay jirayso oo ciidanka uusan maaragtay marna ka warqabi karin waxaan ma dhicin mase ma dhicin uusan macluumaadka uu ka hayo aan isla leeyahay inay ku yar tahay laakiin wax kastaba ha ahaato xukuumadda soomaaliya waxaa laga rabaa inay arrintaa caddayso annagana baarlamaanka annaga waa shacabka soomaaliyeed mas-uul ka nahay waxaana mas-uul oganahay dhibaato kastoo ku dhacdo waxaa kamid gobol soomaaliyeed in saa dhibaato lagu geysto runtii waxaan u dulqaadan karnaa ama aan sugayna maaha laakiin tallaabadeeda waxaan qaadi doonaa markaan gudaha tagno oo baarlamaanka dhexdiisa arrintaa kaga doodi doono xildhibaan baarlamaan ka mid ayaa tahay haddaan horta cali dib ugu noqdo hadaladiisa waxaa ka mid ahaa inuu amason difaacayo sumcadeeda iyo walwal fara badan oo ka qabay meeshan wuxuu joogaa inuu amason wararkeeda uu gudbiyo waa askari order baa la siiyaa saas askartu waxu fulisaa laakiin waxaad moodaa kiiskii oon maxkamad imaanin oon laga warqabin inuu leeyahay ma dhicinin waa baaraynaa ma jirto waa fiirinaynaa ma jirto arrintaanu ma dhicinin maxaa naloo fashalay maxaa naloo soo ogeysiin waayey wuxuusan ogeyn reportkan inuu headquarterka ardisababa uu yaalay oo loo geeyey intaan la sii daynin maybe isaga lama inform garaynin calaa kullin adigu xildhibaan baad tahay ummadda soomaaliyeed baad xil u haysaa adiga iyo asxaabtaada kale xildhibaanada arrintaana ma kuula muuqataa fursad dahaba inay idiin tahay maadaama mararka qaarkood waxyaalo badan laydinku dhaliilo taad ku daahiri lahaydeen oo dowladda maxkamad la soo istaagi lahaydeen ama aad ku oran lahaydeen shacabkan soomaaliyeed dhibaatadan loo geystay warcadka soo saara haddii kale shaqadeena aanu qabsanayn horta mid waa ballan qaadaynaa arrintaa xaqiiqadeeda inaan ka daba tagno waxa ka jira iyo waxaana ka jirin shacabka soomaaliyeedna u ballan qaadaynaa gabar soomaaliyeed oo dhibaataysan oo ribood laga keenay inaan intaas ka seexano riboodka intaas idaacadda ka dhageysano kadibna aan boorso iska gashano marna ma dhacayso waana ballan qaadayna laakiin amison waa ogtahay ciidanka soomaaliyeed ama dowladda soomaaliya ama shacabka soomaaliya guud ahaan runtii wax badan ay u tareen oo maaragtay runtii ay qabteen waana ku ammaanaynaa dowladihii soo diray runtii inay dhibaato badan oo shacabka soomaaliyeed haysatay ay ka dulqaadeen ayagoo saas ku ammaan haddana suuragal maa inaan lala xisaabtamin macnaheeduna ma ahan dee gafkaan amison inaa wada geysato waxaa laga yaabaa askari ka tirsan amison in dhibaato geysto laakiin dhibaatada uu geysto macnaheedu ma ahan amison in dhibaato wada geysatay waxaan rajaynayaa in inta lala xisaabtamo xisaab dhaban ay ka imaato waxaan riboodka lasoo qorane waxa ka jiraan ka dawta anaga laftigan hadda ribood bisaan haynaaye maanan samayn xaqiiqada riboodkan waxa uu yahay iyo wuxuusan ahayn iyo waxa ka runa iyo waxaan ka runhayn marka taas shacabka soomaaliyeed waa u ballan qaadayna inaan ka seexan doonin baarlamaankuna dee baarlamaan weligiisna si fiican u shaqeynaya haddana si fiican u shaqeeya weeye macnaheedu maahan midaan keliya waxaan isku daahirayno meela waxaan ujeedaa arrin culays iyo miisaan la weeye loona baahan yahay inaad xilkiina ka soo baxdaan ujeedadii waa saas aadaan u dareemaynaa inay culays badan leedahay xanuun waa nugu haysa waxaa tiri in lala xisaabtamo amazon riboodkan waxaa ku qoran ciidamada amazon inay immune ka yihiin from prosecution maxkamad lama soo taagi karo lama dhaliili karo lama eedayn karo dowladduna awooday kaga hortagto ma lahan ilaa ay haatan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu labaduba waa aaminsan yihiin ra-iisul baarlamaanku waa aaminsan yahay ciidamada saraakiisha oo indhaqarsho uu hogaaminayo waa aaminsan yihiin iyo kuwo fara badan wasaaradda warfaafinta waa aaminsan tahay wiig walbana waxay soo saaraan riboort leeyahay dowladda waxa u qabsoomay arrintan inay wasaaradda warfaafintu ka hadasho oo idinku aad ka hadashaan oo dowladdan awoodda ay leedahay ay isticmaasho haba yaraatee oo at least uu madaxweynuhu yidhaahdo dadkayga waxa lagu hayo waa ka xumahay gabdhaha soomaaliyeed oo kaamamka ku jira oo hilibkooda qeyriinka lagu boobayo waa ka xumahay hadal sahla oo meel weyn gaarayo dadka soomaaliyeedna qalbigooda daaweyn kara isagoo waxba u qaban karin xataa hadday dhacdo inuu ay hadlaan mas-uuliyiintu hadasho ma ku muuqata horta mas-uuliyiinta annaga horta baarlamaan tiri ahaan meesha aan rabna inaan ka xisaabtano waa hoolka baarlamaanka soomaaliyeed xukuumaddan kala xisaabtamaynaa waxaan waxa ka jira xaqiiqadeena halkaasaan kusoo ogaan doonaa annaga horta roolkeena saas waa inta idaacad tagno kama xaqiijin karna idaacad gudaheeda laakiin annaga systemkeena noo dhisan ayaan mari doonaa daal idmo waana keeni doonaa riboodkeeda annagoo systemka baarlamaanka u yaala dhex marsiin doona dowladda soomaaliya horta soomaaliya waxaa ogaataa dowladaa ka jirto adduunkuna ictiraafsan yahay mas-uuliyadda dalkaas soomaaliya la yirahdana ayaday ku dhacaysaa niman la yirahdo amazon oo lala xisaabtami karinna ma jirto ani intaan ka warqabo de riboodka waxa ku qor waa wax kale laakiin ani intaan ka warqabo amazon waa lala xisaabtami karaa
maxkamadna waa lala tiigsan karaa waa la saari karaa haddii dambi gasho wadanka gudihiisa waa la saari karaa aniga hadda waxaan joogay waxyaabo qaar oo wadanka gudihiisa ka dhacay oo maxkamad lagu saaray ciidamada Amazon kadibna inta la xukumay kadib looga qaaday wixii maaragtay xuquuqaha ku waajibay aniga marka waxaan aaminsanahay reportku de masaxa waa khalad waa ku sheegay wuxuu u baahan yahay in la xaqiijiyo laakiin Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayada ka mas'uul ah qaadaysana mas'uuliyadeedo dhan ciidanka Amazon dawladda Soomaaliya la shaqeeyaan inay shaqeyso ay hirgasho ee ma ahan ciidan madax banaan oo qofku rabo xiri karo oo qofku rabo wuxuu rabo ka sameyn karo oo aan la xisaabtamaynin macnaheedu ma ahan sidaas ma halkan kulay waxa ku qoran dawladda Soomaaliya inaysan wax awood u lahayn aysan mas'uuliyadda ciidamadaasna qaadi karinin mas'uuliyadooda iyo tacdiidda geystaan wadamadooda oo kaliya lagu qaadi karo maxaa yeelay dawladda Soomaaliya wax jurisdiction ay ku leedahay ma jirto ciidamada Amazon waxay ka madax banaan yihiin oo ay ka koreeyaan sharciga lamana prosecution lagu sameyn karo ama maxkamadda ma soo taagi karo ciidanka Amazon sharciga ka sareeyaan ma jirto sidaas meeshan kulay ku qoran marka af Soomaali loo bedelo waa ciidamada Kenya kuwa Burundi kuwa Ethiopia oo dambi fara badan Soomaali ka galay saad ogtahayba Sierra Leone iyo waliba Djibouti intaas oo ciidan ayaa ku jirta Mudane Cabdiraxmaan waxaan jeclahay inaan khadka telefoonada markaa furno dabadeedna daawadayaasheena aan la qaybsano dareenkooda daawadayaal waxaad daawanaysaan barnaamijkan si toos ah TV-ga Universal uga baxaya aan ugu magac darnay barnaamijka Universal TV Hard Talk horena barnaamijka magaca aan idin soo deynay kana kuwa ayuu mid ka yahay telefoonka markaa soo gashaan fadlan waxaan rabnaa inaad iska bakhtiisaan aaladda aad naga dhageysanaysaan haddaan ismaqli weyno waa kaa gudbaynaa marka insha Allah ta'ala anagoo idinkaga mahad celinayna waqtigiina qofka u horeeya assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سو دو ولا مقعه؟ مقعيga hooyo Soomaalida dhira Cabdixaafid waa ku salaamay hooyo. Soo dhow hooyo. Weligeey horta kama hadlin telefishinka. Anigu maanta Sandaydan ka imid Soomaaliya. Waa gartay. oo Muqdisho waan aaday. Aha. Marka horta maana arag horta gabdho lagu kusanaay laakiin dhibaatooyinka Unisonka uu ku hayo Soomaalidu waa mid weyn oo noqorsooneen. Maxaad soo aragtay adigu oo dhibaato ah? Waxaan soo arkoon shaahid aan ahay wiilal yar oo Soomaali ayaa gaariga ay wateen aan la marsiiyay. idaacadii ka hadlana waa la xiray Muqdisho waa la wada ogyahay. marka arintaas adigu ma indhahaaga saartay mise waa lagu sheegay in idaacadaha la xiray walaal Soomaaliya joogsan Sandaydan ka imid. waa gartay. marka hooyo gumaysi weyn baan ku jirnaa dhibaatooyin bay nagu hayaan Unison. soo fahmin. si fiican. marka hooyo micnaha Ilaahay ha u gargaaro Soomaaliya Ilaahay ha u gargaaro waa dhiban yihiin aad u dhiban yihiin wadada markay marayaan markaad gaari wadato oo wadada aad marayso ka dab yimaado wadada hadaan ka leexan waa ku marsiinayaan baabuurtan waa weyn oo markaas gaashaaman bay wataan oo baabuurta yar burburin karta xabaduhuna aysan ka dusinin marka waxa nafta markaas waxaad sameynaysaa baabuurka marka lagu wado laaba lagu gabar maxaa la ku nooglis baabuurka aan soo socdaa lagu leeyahay si aanu cadaalad u sameeyno wax wanaag ay sameeyaan ma ku muuqatay markaad magaalada dhex joogtay والله wax wanaag ay sameeyeen ma ana arag sababta Soomaaliya marka dhex joogto wali waa Soomaali ugaarsiga jiro dhibaatadiya jirto waxa ay noo qabteen oo wanaag ma ana arag waxaan dhibaato ah nooma qaban Amazon umada Soomaaliyeed waa ku dibay runta hadii la sheegay maxaad ka rajaynaysaa dawladda Soomaaliyeed Xashan Sheekh Maxamuud oo madaxweynaha ka yahay iyo ra'iisul wasaare Cabdiwali markaad aragtid gabdho yar yar ah oo 12 jir oo 10 nin ay fuushay ama hooyo caruurteedii ayagoo gaajaysan inta ka soo tagtay ayadoo teedii ilowday ilmaheeda yar markay daawo soo doontayna xabad inta dhafoorka laga saaray la kufsaday dabadeedna istaagi kari weedo laga qaaday meesha $5 la siiyo liira ama sooladoo iska tag waa gumaysi aad arkayso dawladda Xasan Sheekh waxay ka qaban kartaa ma lahan umada Soomaaliyeed ayuu afqabtay dawladdi nin hadli kar male ninki maanta laba idaacad ka hadashay Soomaaliya waa la socotay laba idaacadna waa la xiray waxaad u hadlaysiin waa la aaminsiiyay marka awood ay dawladda leedahay male Amazon ay meesha u talisa marka Soomaaliya Ilaahay baa u maqan hooy si hadlays marka Muqdisho tagto uma hadli kartid madaxa laga garaacaya aad iyo aad baa hooy u maasantaa waqti badan baan ku sii hore kaaga mahad celinayaa qayb qaadashada barnaamijkan mahadsani hooy Soomaaliya laynka kale oo ku xiga assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله. magaca walaal soo dhawow قال مقعي عبد الناصر waxaan joogaa Scotland. waa ku soo dhaweynaa Cabdi Naasir waa mahadsantahay. Runa waxa uu arkaa arrintan inay soo noqon doonto maadaama ay horta wadankan ay ciidamada janabi ay joogaan waana aragnay waana daawan jirnay ama waana arki jirnay wadankan la yiraahdo Afghanistan waxa ka dhici jiray arrimaha qaarkood runtii waxay u baahan yihiin waa wax difaaca ma aha wax hadal u baahan arrinta maanta waxay taagan tahay kursi birna waxay sii socon doontaa masaajidihii la galo in diintii wax laga sheegay aadaysta
marka always ma waxa ka dhacay wadanka Afghanistan waa aragnay waxaana difaac jiray waa ciidamada reer Afghanistan baashu uma baahno macnuhu ma ahan macnaheedu dawladdu way la aysan tahay waa taageero la siiyo maaha ciidamada Afghanistan waxa taageeri jiray wadankaas waa intaasoo boqolaal oo dad bas u tago oo ma aragtay kalmeynahay laakiin at the same time way isdifaaci jireen وقرتي عبد الناصر مركز أركتيد الربوت كأخرى أما صار مقاشة رزق ومقالنا وسودين دونا مردو مركز مقاشيد أن هوية الصوماليات أو صار الله فرحمي أو لكفصلي أو دبعتي هذا اللي جفا إيديسي أو بركة عياشة كمذا أن أقل عاشش كسر يسن كسر كعذي عرورتي ذي يرك هاي أو المنطقة ذينين أوصل دونتي داوي يرى يا محل هذا أن حقا يرو بريسة dabadeedna baahideeda laga faa'iideysto ayna diidaan xataa inay condom xirtaan dabadeedna ay ka qaadeen waa suu report ku dhigay hadalka ay ka qaadeen gabdho Soomaaliyeed cudurrada faafa ee galmada laga qaado والله حتى اسكوا دابا إني كندم حرتان حتى يابو قلب إني حتى أيوه حرنا حتى كندم يابو قلب تاس تاس ولي بو حتى في درني وإنت عبته ولي بو يوم رايك وحنا كبقى لأنه ويلي ليهين قد مقلسين إبروكا waa imaanaynaa dad Soomaaliya waxa jira turjumaana oo dabadeedna gabdhaha soo xirageliya hooyooyinka soo xirageliya aan sir qabanin kuwa dhagar laawayaasha ba ku yiraahda soo dhawaado xerada qaybteena dambe kale imaada daawa lagu siinaya sidii gabadhiyaan Cali weydiyo oo kale oo ayadoo qol inta la soo geliya ayadoo daawo doonaysa dabadeedna askari meesha jooga oo la kulmay oo ku sugayay inuu maaragtay ku kufsado markay diideen dharbaaxa iyo feer uu kala daalay dabadeedna dantii oo markuu ka dhameystay uu soo siiyay kiilo yar oo boorasha iyo boorashka af Soomaaliya haddaan si kale u dhigo waxaan ku miisaali karaa dadka wadanka way joogan aan garanayn boorashka waxaan u malaynayaa waxa buunshaha u eg oo kale inuu ahaa xoolaha taysan cuni jirin iyo $5 la soo siiyay يعني dhibaatada inta la eg baa haysata dawladda Soomaaliyeedna ma hadlayso maxaad ka rajaynaysaa Cabdi Naasir dawladda Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud wasiirka warfaafinta wasiirka gaashaandhiga iyo waliba ra'iisul wasaaraha والله هرت دولته وأمسنت هرت وحاجة وستي فالحمد لله بحب كسر تبع وزارة الفافين هرت أنا حتى أنا كانوا نحسن ما أردت أنا حتى ذاتي أنا قنعين أنا وحي صوب بنجين مرول بنو حارجنا أن وزير كرمها أن وزير كاستجا وزير كفافين ومالول بهالله نوحوش يا ماركي مش ويجا في القطيع لكن نوصل حتى ويجا نوصل النحسنين وأنا واحد هذا فالحن markaan uu waxaan ku soo koobay islaameyshana hadalkii horaan aan u bilaabay waa qayb waxa uu wax difaac u baahan ma ahan in ay dawladdu maartay bas laga sugo waana wax dhanka shacabka iyo dawladaba waa tan aan ku sheegay wadanka Cabdi Naasir Cabdi Naasir aad baa ma santahay khadadku buuxan kaga gudbay iga raali noqo khad kale ku xiga assalaamu calaykum hello soo dhawaad magaca deeqa soo dhawow xildhibaan Soomaaliyeed baa ila fadhiyo mas'uul qaran ah wax su'aalood weydiinayso arrimahan ku wajahan ma jiraan عبد حفيظ شنو وندوا ولا دقة ولا دقة بليس واكو بريا igala soco telefonka TV-ga iska daa codkana kor yara qaad fadlan دقة وان كابيها ولا وان كابي soo dhawow waxaan ku yeeray mas'uul Soomaaliyeed baa ila fadhiyo mudan Cabdiraxmaan oo xildhibaan Soomaaliyeedna hore inuu ahaan jiray wasiirka ku-xigeenkii gaashaandhiga wax su'aalood qabtid oo asaga ku wajahan iyo baarlamaanka ma jirta horta dabcan way jirtaa laakiin waxaa ka horeysa barnaamijka hadda waan dhageysanahay walaal gabdhaha Soomaaliyeed yani sida loo galaayo ayaa idamqaysa ma fahantay ninkii hadda aad wareysanaysay oo afayeenka ahaa yani Soomaali baan ahayn uu yiri xeer baan leenahay xeer haddaan leenahay in la xoogo oo yani gabdhaheen la faraxumeeyo xeer nooma aha dhaqanna nooma aha diinteena xitaa ma qabto marka inuu saas u hadlo isaga oo mas'uul ah oo afayeen dhan ah anaga horta sideedaba wax fiican nooma aha dumar ahaan haddaan u hadlo ma fahantay marka run ahaantii waa wax xun waana wax alla qoray balse aniga waxaan dhihi lahaa deeqa ahaan in yani haddii dawlad wax qabanaynin haddii yani mas-uuliyiintii wadanka aysan waxbana qabanayn haddii afayeenkoodii uu sidaa u hadlaayo dumarkii Soomaaliyeedna ay dhiban yihiin kuna kalifaysa duruuf ama dano gaar ah oo iyaga haysata yani aniga waxaan dhihi lahaa in yani
annaga aan ka dabqano oo aan mudaaharaadyo u sameyno oo aan ka doodno oo yacni nidhaahdo walaal sidan nama qabato ma fahanta markaas ay caalamka ay arkaan qadcan qof dumara oo teeda haysato in yacni lagu sii digto oo la faraxumeeyo deeqa aad baa umahadsan tahay cabdiraxmaan mudane waad maqlaysaa cabdinaasir deeqo dadka soomaaliyeed waxay ka xun yihiin tacadiyadda iyo waxa loo geysanayo dowladdiina way ka aamusan tahay kelimad keliya qura kama aysan oranin xataa waanu baaraynaa iyo waa ka warqabaynaa iyo waxbaan ka geysanaynaa idinka xildhibaanada oo hadda adigu nagala joogto baan idinka hayaa laakiin soomaalida waxaan moodaa inay eegayaan xubnaha ugu sarreeya dowladda ra-iisul wasaaraha madaxweynaha wasiirka gaashaandhigga dadkay gaarka u taabanayso u qosayso ayadoo kulligeed naga dhexaysa maxaad is leedahay waa aamusanayaan madaxdaa sare hadda daxfida waxaa ogaataa riboodkan hay-adaa qortay dowladda soomaaliyeed markii hay-ad wax qortan waxay u baahan tahay inay xaqiijiso intaysan hadlin ka hor sababtoo ah in la hadlo oo waxaan laga jawaabo waxay u baahan tahay in xaqiiqadooda horta la daba tago aniga waa isleeyahay dowladda soomaaliya dee ribood kusoo baxay ilaa hadda dee taqriiban dee dowladdu inay ku mashquulsan tahay inay arrintaa ribood ka soo saarto kadibna ay ka hadasho xaqiiqada jirto sababtoo waxaan la soo qoray hay-adaa soo qortay ma runa ama beena ilaa ay hadda anigu ma garanaya xaqiiqada laakiin hadda adigu waxaa u aaminsan tahay sidii inay wax run yihiin oo kale sida hadda warku u akrinaysa riboodka ayada soo qortay hay-ada soo qortay laakiin de hay-adda laftigeeda in la xaqiijiyo u baahan taha waxa ay soo qortay meesha ay ka keentay iyo isha waxaan ka soo qortay inay sax yihiin inay qalad yihiin waxaa kaloo la rabaa Soomaaliya inay cadaalad samayso ciidamada Amisom hooyo Soomaaliyeed oo kale waxay tahay aan wax khayr oo sameeyaan ma soo arkin taas runtii cadaalad darro waay ciidanka Amisom ilmooda wiilashooda ku baabaa meesha ku dhintay ma ogtiin howlgallada maalin kasta ka jira Soomaaliya haddaysan ayaga ahaan lahayn wax badan dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliya uma qabsoomeen waxaan leeyahay waa amaan ay mudan yihiin dowladihii soo diray oo Uganda iyo Kenya iyo Ethiopia iyo nimanka la yiraahdo Hiil walaal Djibouti hadda Cali oo ka soo jeedo runtii gobolada Hiiraan ay ka dagaalamaan dad arki lahayd yani qoraxda iyo kuleelka iyo dhibaatada ay ku jireen ay ku difaacayeen runtii qarannimada iyo dowladnimada Soomaaliyeed iyo dhibaatada shacabka Soomaaliyeed ka qayb qaataa in ka dulqaadaan waxaas oo dhan waa in la sheego oo amaantooda la sheego bini aadamkuna gaf waa ka dhaca ayaduna waa bini aadamku meeshuu joogo weliba ciidan waayo waxa meesha joogo ciidankuna waa ka dhacaya gafka ka dhacayo macnaheedu ma ahan in Amazon inta qorshaheedu yahay in gabdhaha Soomaaliyeed la kufsado laakiin dhibaatada digeystaan waa la xisaabtamaya dowladda Soomaaliyeed waa la xisaabtamaysaa waana isleeyahay dowladdu de hadda waa laga degdeg waa laga yaabaa inay hadda u rabto inay kaga jawaabaan laakiin dowladda Soomaaliya waxaan isleeyahay ma dhayarsan doonto report inta soo baxay in inta iska dhageysato ay guriga iska aysan ka jawaabin waa isleeyahay markuu ku mashquulsanta waa wuxuu daarayna laakiin ciidanka Amisom wax badanna waa taraan wax badanna Soomaalida waa u tareen Soomaalida waxa la rabaa inay ixtiraafaan ciidankaas Amisom inay wax badan tareen waa gartay waxa jira kalsooni darro shacabka Soomaaliyeed ka haysata dowladda inaysan dowladdu awoodna aysan lahayn isla mar ahaantaana aysan askartaan iyo dowladda ay ka yimaadeen midnaba aysan la xisaabtami karin baa dadka hadalkooda ka muuqata sidee loo xaqiijin karaa dowladda Soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Cabdulle ay hogaaminayaan in ay la xisaabtamaan oo si cad ay la xisaabtamaan oo ka madax banaan musuqmaasuq iyo hoosgelis iyo xeer hoosaad waxa la kufsanaya waa xeer hoosaad baahan hooyo Soomaaliyeed way dhiig ka daadanayo way istaagi kari weeyday markii 10 ay fuushay report dhowr jeer baa hadalka tiri reportkan hay'adda qortay wax sabab oo ay Amazon ay been ogaga sheegto ama run ogaga sabab been ogaga sheegtay ma jirto waxay la kulmeen dadkii dhibaatadu ay gaartay waxay kala kulmeen bay soo sheegeen haddii aad leedahay mudane Cabdiraxmaan hooyooyinka halkan ku taxan iyo gabdhahaanu been bay sheegayaan oo lama kufsanin sida Cali oo kale u yiri taas waa gooni weeyaan laakiin hooyo Soomaaliyeed oo istaagi kari weeyday markii 10 nin ay fuusho istaaga ka dhacdo boodihu ay gariirayaan in la yiraahdo waa in la soo xaqiijiyaa in la kufsaday in kale maysan kuugu muuqanin ayada laftigeedu inay tacadiyad iyo meel ka dhac tahay maxay u dhici weeyday in inta isbitaal la geeyo la soo baaro ayadii la raadsho kaamkay ku jiraan dowladda iyo baarlamaanka adigu joogtaa baarlamaankii kaamkan oo isku muuqdaan ay ku jiraan hal kumiina oran maalin qura waxaan ku weydiiyey reportkan iyo gabadha Soomaaliyeed oo la sheegay oo dhiig ka daayo inta aniga dareenkayga wax badan uu ka bedelaya laakiin adigu ma soo aragtay reportkan adigu maxaa ku xaqiijinaysaa inuu sax yahay
riboodkan waxaan ku xaqiijinaynaa inuu wax dhaba oo jira uu yahay hay-adda soo saartay culayskay adduunka ku leedahay waxayna ka xoog badan tahay aan ka reebna culayskay leedahay laakiin adiga maxaa ku xaqiijinaysaa as universal ahaan riboodkan inuu sax yahay oo gabadhaas ay run tahay oo soo aragtay oo soo xaqiijiyay maxaa ku cadeynay hada warqadaha meesha ku yaalo ribooda la soo saaray laakiin adiga cabdixafiida inay waxaan run yihiin inay been yihiin maxaa ku cadeynay waxaan ku cadeynaynaa inay run yihiin mudan cabdiraxmaan hay-addan I don't know sida aad culayska ay leedahay saad u fahansan tahay igana raalli laho hay-addaanu ma ahan hay-ad inta meelaha iska soo fadhiisato been iska sheegto riboodyo qorta ma aha qolyihii monitoring groupko dadku ay ka dacwoonayeen ma ahan this is a human right watchdog ujeedadooda oo keliya waxay tahay xuquuqul insaanka meesha ay ka dhacayaan tacadiyada inay keenaan daliil baan ku siinaya Kosovo markii muslimiinta lagu laayay iyo Bosnia hay-addii soo qortay weeye dadka maxkamadda soo saartay markaas way saxsanaayeen maxaa yeelay hay-ad waxay ahayn ribood soo saartay waxayna u dagaalamayeen gabdho muslimiina oo la kufsaday oo qaarkood ayagoo uur la dooxay in case la ogaado inay wiil dhaleen sabab hay-addaanu hay-ad lagaga shakisan yahay inay been sheegto ama Soomaaliya ama Amazon been ka sheegaysa ma ahan waxa ay sheegayaana credibility iyo culays bay leeyihiin laakiin waxay waa soo xaqiijinaynaa waa gooni waatan gabadha hadlaysa daawasho mission in Somalia was initially deployed in 2007 to help bring stability to the war-torn capital of Mogadishu. And since then, over the years, the mission has increased, has received increasing support, and I think everyone will agree is increasingly playing quite a key role in Somalia and is likely to continue to have an impact on the future of Somalia. Now, with this in mind, our research has actually found that despite the significant support given to Amazon, because it has been credited with having helped move al-Shabaab out of Mogadishu and out of other key towns in south-central Somalia, certain Amazon soldiers have also abused the power and the support they have been granted. Now, in this report, what we find is that certain Amazon soldiers from the Ugandan and Burundian forces in Mogadishu over the last year have been abusing their power to sexually exploit, which is basically the use of power, the abuse of vulnerability for sexual favors, but have also sexually abused, raped women and girls on two of their main bases in Mogadishu. Now, what we find is that, so this research is based primarily on interviews with survivors of sexual exploitation and abuse, although, as I will describe later, we have also focused our research on what are troop contributing countries, in this case Uganda and Burundi, who obviously have jurisdiction over their forces, who are the main responsible for misconduct by their forces. What have they been doing specifically on this issue? What we find is that there are a range of tactics which have been used by the Amazon soldiers in Somalia to lure in and coerce women and girls. One of the most alarming findings in this report is how much Amazon soldiers have actually used humanitarian assistance, and particularly medical assistance, to lure in women and girls. So what we found was that actually when women and girls are going on to the outpatient departments on two of the main bases in Mogadishu, and this is particularly the case, I would say, on the Burundian contingent base, they go in to get medication, and it's when they are approached by a Somali intermediary who claims to be a translator for Amazon and are told, you can get your medication if you come back to the base. And when they go back to the base, it's when they realize what is actually going to be expected of them. And one of the most, shocking testimonies in this report was a woman who actually was told, come back to the base to get your medication, and suddenly realized once she found herself in the room of an Amazon soldier, she suddenly realized that she was going to be expected to have sex with this soldier. And she said to us, at that point, I wanted to run. I was terrified, but I remembered one of the reasons which had brought me here was my hunger and my need to survive. And so she felt forced to stay in that room and have sex with this soldier.
We have not only documented sexual exploitation, we have also documented rape. And similarly, what we see, it's women and girls coming into the base to get medication. They're told to follow soldiers into a more secluded part of the bases, and this is where we've documented the cases of rape. In terms of the exploitation, now we cannot come to conclusions in terms of the prevalence, how widespread this is. But I think there are many findings in this report which would suggest not only that this is organised, but also that this is not secret. Now, why I say this are several factors. First of all, it's the way in which it's happening. The Somali intermediaries which are approaching women and girls, either in the medical centres. In certain cases, women and girls were actually approached in their internally displaced people's camps. Now, one thing which is very important to stress is all the women and girls we have spoken to in this report were from displaced communities. So once again, highlighting the incredible vulnerability of these women to the soldiers and to the abuses. Then the women and girls are coming in through official gates. So they're coming into what are supposedly protected bases, and they are coming in through official gates where there are AMISOM soldiers. hagaag haddaan quickly idin dulmarno waxaana daaya sheegaya unbay gabadhu sheegaysaa waxayna ka waramaysaa dhibaatada iyo tacadiyada loo geysto inay ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Uganda iyo Burundi ay kufsadaan dumarka Soomaaliyeed rag Soomaaliyeed ay u soo shaqeeyaan oo ay gabdhaha yararka iyo hooyooyinka sirmaqabayaasha ay u soo gacan geliyaan dhagarqabayaashaas kufsiga iyo tacadiyada iyo jirdilka u geysanaya dumarka ay kufsadeen oo dhanna waxay ka kooban yihiin dadka ka yimid kaamamka barakacayaasha oo ragga Soomaaliyeed 22 ama 23 sano ay dumarka iyo carruurta ay barakicinayeen ayoo qabaa'ilo iyo kooxa iyo group isku dagaalamaya inta markaanu ku sameynay kadib dabadeedna gacanta waxaan u gelinay in la fuulo oo la kufsado oo xerooyinka lagu kufsado xerooyinka Burundi iyo kuwaas way shacabka Soomaaliyeedna waxay xaq u leeyihiin inay istaagaan meel kasta ay joogaan oo ay ka dhiidiyaan gaar ahaan dadka Soomaalida qurbaha ku nool meelaha Yurub iyo Mareykanka iyo Canada inaad MPyadiina u tagtaan oo aad dacwooyin ka qortaan aad tiraahdaan waxay AMISOM sameynayso reportkan la soo saaray waanu ka xunnahay funding kana inaad maxay tahay idinkaasiya arrintan wax ka qabataan way taas culays bay u yeelaysaa dawladda Soomaaliya oo aamusan culays bay saaraysaa xilbaanadu waxay ballan qaadeen inay dhawaan hadli doonaan arrintan soo baari doonaan khadka telefoonka assalaamu calaykum waraxmatullah alaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu cabdi xaafid waa ku salaamo magaceeyo waa Axmed Xasan wadana kaga soo hadlaa hadal badan ma qabo cabdi xaafid oo hor hal shay caawa waxaa la ogaadaa Soomaaliya ay ogaataan nin ajaanib oo banaanka kaga yimid intaas ku sameey intaas ka hadleehay badnaaxiso faxal khayrkaas ku sameeyo intaas asaleehay si badan taas la ogaado ama Soomaaliya waxa qaba heese iyo Soomaaliya gudaheeda ayaga walaale ayaga wada dhash ayaga isdalay ha islaayaano baritu way heshayaan ilaa nin banaanka ka yimid wax asqabahay os ilaahi uuntay oo burburis aan ka ahayn ma jirto ana intaas ziyad ha ku soo ziyaaday lahay ama santa Axmed waxaan jecelahay khad kale oo ku xigana u gudbo assalaamu calaykum hello عليكم السلام سولو ولا الكور يا هذا الفضل عبد الحفيظ واكو السلام السلام عليكم هوي Soomaaliyeed baan ahay solo hooy waxaan aad uga xumahay Cabdi Xafiidow maantay in ciidamada AMISOM oo adduunku lacag siiyo inay gabdhaha yagiisa u kufsadaan oo hooyooyinkeena saa u kufsadaan waa wax aad looga naxaruntii in afhayeenkooduna uu ku celceliyay dhawr Soomaalidu xeer bay leedahay Soomaalidu xeer bay leedahay xeerka waxaan weydiinayaa afhayeenka ma in gabdhaha iyaga saqiirada 12 sano jira la kufsadaba ma hooyooyinkeena masaakiinta oo tuugsanayo daawada miciinka biday sila iyaga ku sheega AMISOM waxbay qabataayo Soomaaliya wax ka qabataayo nabadii bay soo celinaysaa iyaga ku sheega marka dadka masaakiinta ah bariiska u doontay ama daawada u doonto hooyada masaakiinta iyadoo gaajada u baqtay in la kufsado miya xeerka uu ku celcelinayo afhayeenku waan garan waayay mana garanay inta ama horta kuwa wax kufsado la gaarin ninkan afhayeenka sheeganaya askariga lacagta qaata inuu anaga noo gufo horta isagay bataab inuu apologize na siiyo waxa kale oo ku soo xiga wiilkan hadda Cabdiraxmaan oo xildhibaanka ah
maxaaba la gaariba horta goor uu dib intuu u noqdo uu yiraahdo maxaa la dhahaa waan doodaynaa oo waxaan keenaynaa maxaa reportkii waan raadinaynaa hadduuba wuxuu la taagan yahay asagoo fadhiyo meesha intuuba dhihi lahaa wixii waa raadinaya ama waa doonaynaa wuxuu la taagan yahay yaa see lagu cadeeyey yaa cadeeyey marka ay dhoono goor intuu noqdo uu runta soo sheegi doono aniga uma malaynayo inuu run soo sheegi doono ma kula tahay hooyo Soomaaliyeed intaadan xildhibaanka mas-uulka Soomaaliyeed aadan xukuminin isaga laftigiisa iyo dadka kale oo doonaya inay arrintan soo ogaadaan in fursad la siiyo ay ku soo ogaadaan wixii baarlamaankii la keenay dawladdii laga xisaabtamo oo processkaas la maro ma ku muuqataa inta ka horeysana dawladdu ay tiraahdo wixii dhacay oo shacabka Soomaaliyeed lagu sameeyay waanu ka xunahay baaritaan baan ku jirnaa waqti hana la siiyo dabadeedna laga warsugo sidaa la sameeyay laakiin madaxweynuhu uusan ka aamusin oo ra'iisul wasaaruhu ka aamusin oo warfaafinta Soomaaliyeed TV-ga iyo radio Muqdisho midkoodna uusan ka hadlinin arrinta laga aamuso ay saas laga wanaagsan yahay abareer Cabdi Xafiid waa runtaa inaan sugna weeye laakiin waxa la yiri wixii qalbiga kaaga afku ka xada xildhibaanku asagaaba wuxuu la taagay chance anaga wasiin lahayn maanta haduu dhihi lahaa wixii waan baaraynaa ama hay'adii waan fiirinaynaa waxay sheegtay ama wixii ka dambeeyay wixii soo cadaada waan soo cadaynaynaa waxaan soo cadaano beenooban hadda waa been laakiin inta ma sheekadii la gaaro asaga wuxuu la taagan yahay ma la cadeeyay horta xildhibaanku waa ka raali ahaado marka hooyo Soomaaliyeed waxaa moodaa hadalkaaga in laga fahmayo xildhibaanka iyo afhayeenka Amazon inay labaduba isku fikrad iyo isku ra'yi yihiin oo leeyihiin waxaanu wax jira ma ahan inkastoo Cabdiraxmaan uu yiri waa soo baaraynaa waana ka salgaaraynaa Cabdiraxmaan marka hore wuu la qumana aniga hana raaliga ahaado wiil yar weeye habar yar baan u ahay waana xildhibaankaygii marka hore wuu qumanaa laakiin markii dambe wuxuu dood wuxuu keenay sidii afhayeenkii oo kale inuu yiraahdo yaa horta xaqiijiyay hooyo Soomaaliyeed waa mahadsantahay waa kaaga mahadcelinaa qayb qaadashadaada waana mahadsantahay mudane Cabdiraxmaan difaac baad gashay ciidamada Amazon baad difaacaysaa dadka Soomaaliyeed ma daqrinaysid run ma sheegaysid xildhibaanada kalena kula qaban baa laga yaabaa qaarna kugu diidaan saas way hadalka hooyo Soomaaliyeed soo dhow horta waa ka xumahay horta hooyo Soomaaliyeed waa salaamaya waana ku mahadsantahay fikirkeeda horta qofku inta aragti qaldan laga fahmo aniga meesha fadhiya sax weey aniga iyo afhayeenka Amazon isku warmaanayn afhayeenka Amazon ma u hadlay wuxuu yiri waxaan sax ma aniga waxaan hadii sidaan u dhacay runtii aadaan uga xumaa dareenkeygana waa ku muujiyay laakiin qofku markuu mas'uul yahay wax kasta oo la soo sheegay wuxuu u baahan yahay in la xaqiijiyo waxaan sheegay anigu xildhibaan Soomaaliyeed baan ahay xildhibaanada Soomaaliyeed oo 225 waa kamid ah waxa xaqna lagu leeyahay dhibaato kasta oo Soomaaliya ku timaado in anaga dabagalno warkeeda soo ogaan waa ballan qaadnay waana ballan qaadaynaa arrintan inaan dabagalno soo xaqiijino afay Amazon hadda waxaan ma sameyn anigu ma dhihin way sameysana ma dhihin oo ma xukumi karo sababtoo report la qoray reportka anigu wuxuu iga rabaa inaan soo xaqiijiyo inaan soo cadeeyo inaan dhaho marka wixii la soo cadeeyo hal la xaqiijiyo umaleema hadii inaan taas dambi ku gal Cabdixafiid anaga waxaan ku xaqiijinaynaa anaga kanaalo iyo system aan ku shaqeynaa jira baarlamaantriga hawsha marka systemkaas baarlamaanka anaga dhaxdeena ayaan marsiinaynaa waxaan ku rajaweynaa reportkan si dhaqsaa in kalsoonina waa in la helo hadaa waxa dareemaysay su'aalo la isweydiinaa waxa kamid ah dawladda Soomaaliya laguma kalsoona oo shacabku kuma kalsoona hadaa adii dawladda Soomaaliya ku kalsoonaanin oo san hooyo Soomaaliyeed ku kalsoonaanin yaa waa cid kalsoonida laga sugay dawladda Soomaaliya ku kalsoonaa hadalkaas wuxuu ku yimid Cabdiraxmaan 22 gabdhood oo Soomaaliya oo gabdho yar oo 12 jir iyo dumar waaweyn isugu jira oo la weydiiyay inay u dacwoodeen dawladda Soomaaliya oo arrintan ay ka dhidhiyeen waa dumarka la kufsaday weeyaan waxay yiraahdeen kalsooni kuma qabno dawladda Soomaaliyeed inay noo cadgoynayso community-geennuna magacyo foolxun buu noogu yeelaya anagoo victim ama dadka dhibaatada soo gaartay isla mar ahaantaana waxaanu kala ognahay waxaana ka baqaynaa bay yiraahdeen in waliba tacadiyad kale horna loo geysto markaanu hadalno idinka ma laga yaabaa markaad noqotaan kaamamka inaad tagtaan oo dumarkan raadisaan idinku afkiina ku waraysataan ma la heli karaa taas waa ballan qaadaynaa inaan kaamkana tagno reportka hadda inta adiga noo keenay ka horaan soo naloo keenay waana haynaa waana ka shirnay runtii hadda wax walba media kama sheegi karno laakiin waxaan ku talagalnay inaan arrintaas aan ka daba tagno xaqiiqadana soo ogaan waana ballan qaadaynaa hadda shacabka Soomaaliyeedna waa ballan qaadkaas waa TV-ga hadda ka sheegay idaacadana waa ka sheegay waa maqlayaan
arrinta inta dabagalna xaqiiqadeeda waa ka daba tegi doonaa waxa ka jirna waa soo ogaan doonaa laakiin xukuumadda Soomaaliya waxaa laga rabaa ayadaa la xisaabtanka Amazon iyo dhibaatada ay geysteen ayadaa iskale ayadaa laga rabaa in la xisaabtanto annaga laakiin inaan ka kaalmeyno kana shaqeyno in xaqiiqada waxa la daba tago kuna saarna culays dawladda Soomaaliya xukuumadda Soomaaliya cid la rabo in la xisaabtanto xaqiiqada waxaan in laga daba tago ay maaragtay ka shaqeyso xisaabtana la yimaado waa baarlamaanka waana ballan qaadayna laakiin aniga marna ma difaacin mana difaacayo ciidanka Amazon dhibaatada geysanaya markaa waa cadyahay waxaa kaloo aan xusid mudan in hoos laga xariiqo kalsoonida dawladda Soomaaliya lagu qabo ama nidaam kasta meel kasta ku jiro waa inay dawladdu shacabkeeda kalsooni ka samaysato marka hore shacabkuna markaa kalsoonida uu ka mahad celiyo waxaan khadka telefoonka mar labaad ku jira Cornel Cali Xaamud oo afhayeenka ciidamada Amazon oo hadday khadka telefoonka uu dhinaceena ka baktiyay aanu ka raali gelinayna mudane Cali way maqashaa waan ku maqlaa hadalku waa naga go'ay ka raali noqo waan ka raali gelinayaa waxaa dabadaa intaad naga maqnayd soo wacay dad fara badan oo Soomaaliya oo aad iyo aad u careysan gabar kamid ah ay tiri godob buu naga galay Cali inuu yiraahdo dumarka Soomaaliyeed lama kufsanin arrintaanu lama jirto ayadoon waliba baaritaan la sameeynin gabdhaha Soomaaliyeed inaad raali gelin siisid ma ku muuqataa sheekh waa weeyaan gabdhaha Soomaaliyeed iyo Soomaaliya dhamaanteed wanaageeda iyo dib u dhisideeda iyaan joognaa marnaba godob kii ka galiyay meehi Amazon hadii ay ka gashana sharci baa hor iyo qabanayaan laha hadalka ina wax fiican oo war fiican Soomaalida loo gudbiyo iyaan jecelahay hadalkii fidnada keenayana ina maxaa la rahaa la wanaajiyo iyo maanta marnaba ma oranayo anigu wax dhacay ma dhicin ma oran karayo laakiinse dadka report baa la geeyay oranaya oo waxa la hordhigay maxaa la rahaa African Union taasaan diidanahay African Union wax la ogeysiiyay ma jirto sida ay dadku ogaadeen ugu ogaatay imikana waa galaysa arrintaas ninkii sharcigaasi uu qabtana uu qabanay Soomaaliya wanaageedan u joognaa iyo dhibteeda uma jirno Soomaali iyo dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed markastaba raali gelis dooda iyaan u joognaa anagu waxaa jirta kalsooni darro lagu qabo ciidamada Amazon iyo waliba dawladda basay dad gabdhahan dhibaatada soo gaartay ay sheeganayaan inaan marnaba cadaaladda la soo marinaynin dadka xanuun dhibaatadan geystay oo xanuunada gabdhaha Soomaaliyeed ku beeray bini'aadamku uu kala qaado galmada lagu kala qaado kufsiga wadareedka oo 10 nin iyo 6 nin iyo 5 nin ilmo yar oo saqiira ama gabar yar oo hore loogu galmoon ay xididada goynayaan kalsooni laguma qabo inaad arrintaa ka bisal gaaraysaan oo maxkamad soo saaraysaan oo qofkii geystay iyo groupkii geystay dambigaas lagu oogayo sideeda shacabka Soomaaliyeed kalsooni uga sameysanaysaan ayadoo reportku uu sheegayo ilaa iyo maanta arrintaanu mid socota inay tahay oo joogto u dhacda report horta dhinaca naga dhig baan ku leeyahay reportkani waa ka fidnada abuuraya shacabka Soomaaliyeed iyo Amazon kalsooni baa u dhaxaysa 7 sanadood ay halka joogaan wanaaga ka badan wanaaga la qabtay baa ka badan maxaa la yiraahdaa dhibta maanta la sheegayo Ali gabdho waanu dhalay waana dhaleen marnaba kuma xadgudbayno waxaan jecelnahay inaan dumarka Soomaaliyeed aan ka raali gelino arrintaasi aan sharcina la tiigsano dhibaatadaasi hadii ay jirto علي waxaa muhiim ah waxaad kala waajisay cadaalad baa la hadal qaaday cadaalad baa la Soomaaliya maanta cadaalad iyo meelo badan oo maadaragtay laga habeeyo dawladda Soomaaliyeed baa ka shaqeynaysa oo annaguna kala shaqeynayna marnaba ma jecli dadaalka lagu jiro in hadal maadaragtay kuteena oo maanta la wada hubsan in baa tiri nin marka laga askatoonayo waa la soo horjoojiyaa maxaa la ninkii askatoonayay ka laga askatoonayo ummaduna waa u dhaxaysa arrinkani waa arrin Ali waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo raalli noqo inaan ka dhex galo dooni mayne waxaad tiri waxaan ahay aabo gabdhana waa nala dhasheen reportkana waxaad leedahay meel naga dhigo naga daa reportku waa meesha sartu ka quruntay inaan ka daynaynin lana joojinayna waad ogtahay maxaa yeelay reportkanu waxa uu qiixayaa dhibaatada dadkii Soomaalida ku dhacday oo ciidamada Burundi iyo Uganda ay geysteen waxaan ognahay wadanka Uganda inuu yahay wadamada East Africa xanuunka AIDS-ka leeyahay inta ugu badan ay qabaan gabdhahan yararkaana qaar kamid ah ay ka qaadeen xanuunadaas oo maxay tahay ay nimankaas ay la kulmeen adigu aabba tahay nin Soomaaliyeed baa tahay jinsi ahaan hadii gabadhaada ama qof adiga ehelkaaga qaraabadaada la faraxumeeyo report laga soo qoro reportkii qashinka lagu daro ama hoos loo dhigo ma jeclaan lahayd
ma jecli ayaa qoray baan oran lahaa reportka nin anu Soomaaliyaan jooga ninka report ka qoray Soomaaliya meela jooga waa nin yimid oo hadal ka baaray meesha waayahay walaalayaal ciidamada Amazon laftigoodu Soomaaliya yimaadeen markii imaanshadu isnada asan muhiimadu waxa ay tahay Master Cali haddii report United Nations report ay qoraan hay'adda xuquuqul insaanka oo gabar Soomaaliyeed oo adiga kula dhalatay ama aniga ila dhalatay reportkaas laga soo qoro oo la yiraahdo reportkaan soo qornay adigu reportka in la qariyo oo la sheeginin oo la fadeexadeynin miyaad jeclaan lahayd mise waxaad jeclaan lahayd reportka in la akhriyo dadka loo soo bandhigo dambigana la baaro hadalka waxba iyana lagu noqonin waxaan baarista su'aasha ka jawaab la baaraya wixii jira waa la baaraya su'aasha ka jawaabaya waxa weeyaan report qariya ama oran waana la qarinayaana ma oran ani sameyna la qariyo way doonaysaana ma oran hoos ha loo dhigaa tiri hoos looga yara dhig reportka hoos ha loo dhigo ma oran hoos ha loo dhigo ma oran af Soomaaligu waa margi hoos ha loo dhigo waxaan oran ima qabanayo waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed wanaaga loo qabtay shacabka Soomaaliyeed ee baalka loo qabtay hal la dayo wixii cadaalad darri jirta hal la isla eego baan intaas aan leeyahay waa gartay haddii ay dhacdo in arrintan la soo ogaado in kastoon kalsooni badan lagu qabinin say gabdhaha dhibaatada loo geystay hadalka u dhigeen haddayba dhacdaba in la soo ogaado ama se case waxaa jira aan ognahay adiguna aad ogtahay gabadhii magaalada Baydhabo lagu kufsaday 2002 dawladdaanu markay dhalanaysay xilli ku dhaweyd gabadha yarta ilaa hadda lama soo saarin askarigii maxkamad sidee kalsooni loogu qabi karaa ama san marka waxa jira Soomaaliya iyo wadamada Amisom ururka Afrika ka socda mandate baa u dhaxeeya mandate wuxuu dhigayo oo inba ku wada shaqeynayaan ninkii dambi gala sharciina lala fiigsanayo waa wax meel yaalo weeyaan laakiin arrintan 2 sano ka hor bay dhacday ilaa iyo haatan waxay dawladda Uganda qabatay waxay tahay oo kaliya kiiskiibay waxay keeneen maxkamad gabadhaan ninkaan kufsaday saasaa lagu soo eedeeyay kiiskii waa ka 2 sano kadib waxba lagama qabanin taasi waxay tusaysaa oo dhiiro gelinaysaa askarta kale Ugandayska iyo kuwa kale meesha jooga inay waxaasoo kala sameeyaan ayagoo og dawladda Soomaaliya in aysan haba yaraatee wax prosecution ama la xisaabtama aysan ku lahayn ama san mas'uuliyadda ciidamada ama san ay saaran tahay wadamada ay ka yimaadeen oo kaliya wadamadiina maxkamadda warqadii kaliya la keenay waxna lagama qabanin kalsoonida la idinku qabi karaa maxay tahay marka kalsoonida dawladda Uganda iyo dawladda Soomaaliya u dhaxaysa waa la og yahay anigu to aan ka faaloonayo maaha to aan halkan muran gelinayo maaha reportkan inuu gelinayo maaha waxa weeyaan 2 sano haduu qaatay case-kaasi waqti bay qaadatay waa run dadkii mas'uuliyadda lahaa bay qabanaysaa Amisom waa wadano badan sharciga aan halkan yaalina waa ku adag oo askariga loo soo sheegay una qaban doono tacaadigaas aad u jiro waa gartay ugu dambeyntii waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo maadaama aad difaacaysid Amazon oo inta badan tiraahdi waxaanu ma dhicinin 2003 waan ogeyn hooyadii Soomaaliyeed oo tiri waa la kufsaday oo adigu aad qofkii ugu horeeyay oo yiri ayadoo la baarin kiiskii maxkamadna la keenin ma jirto adiga laftigaagu interior motive baad leedahay inaad ciidamada Amazon difaacdid by any cost somaha maya adiga yiri taasi anigu kuma oran waan ku weydiiyay su'aalahan baan ku weydiiyay anigu wixii jira baan ka hadlayaa sharcigiina qabanayana waana qabanaya wassalaamu calaykum Master Cali waqtigaana kaaga mahad celinayna waxaan jecelahay inaan hoosta ka xariiqo intaanu joogno halkaan insha Allah taala inaanan ka fariisanaynin kana dhidhin doono dhibaatada loo geysanayo dadka Soomaaliyeed haday dawladda ahaan lahayd iyo haday jiri ahaan lahayd iyo gaar ahaan haday ahaan lahayd ciidamada Amazon meeshay doonaan ka yimaadaan inaan mar raba loo dulqaarin doonin ummadda Soomaaliyeedna ay waajib ku tahay inay rarka iska rogaan Ali waa ka baxdaan malaynaya hagaag waxa la ii sheegay shakhsi kale qof kale ayaa khad ku jira la yiri oo mas'uula ma garanayo mudan Cabdiraxmaan ku soo noqonaya halo qof ku xiga salaam alaykum alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh waa kuma ninkaas waa Cabdullaahi Xaashi oo jooga magaalada Västerås ee wadanka Sweden Cabdullaahi waa midnaan ka ah ururkan la yiraahdo maarta Amnesty International oo
islaria iyo western europe kaba 7 sano midland ka ahaa amnesty baa tiri soo maahan amnesty international waa gartay si fiican baan kuu gartay marka waxaan rabay waxaa isdanbiyay hadallada adiga aad leedahay iyo ninka mas-uulka ah oo amazon sida uu hadlaayo oo weliba asal soomaali ka soo jeeda waa gartay markaan eegno ninkaas siduu u hadlayo maxaa kaaga baxay ood dhibsanaysaa adigu waxaan iska baktiya t v-ga fadlan cabdilaahi adeer runtaan kuu sheegayaa waxaan aad iyo aad u dhibsaday waana aad iyo aad u dhibsaday in maanta dawlad rag sheeganaya yarkaa meesha fadhiyo dhalinyarada ah oo isagu naftiisa isxiqaamayo laakiin culayska saaran aan ogahay anigu muqdisho war fiican baan u haya reer muqdishoan ah waxaa ka taagan dawladda waa arkaa itaalkeeda meeshaan madaxweyne iyo dawlad wax ma maamulaan ciidamada amisom a waddanka haysta waxaan u dareemayaa xitaa mararka qaarkood inaan ku jirno maxmiyad ma moodayn xitaa in maanta gabdhaha iyagii hablahayga isaa usoo galwaayayaa ku nool oo carruurtaydaa ku nool oo eelkayaa ku nool ma moodayn in waxaa maanta dhacayo ay ka dhacayaan warka waxaan rabaa inaan soo koobiyo xubintiisa aan ka qabto hay-addan waxa ay qortay waa hay-ad aan been qorayn sida hay-adaha kaleet waa gartay marka waxa ay qortay waa wax u baahan in la arko oo la dabagalo tixraac leh ma iska qorayaan kuna cayaari maayaan marka waxaa laga rabaa dawladda soomaaliya ra-iisul wasaare cabdiweli kaya ani madaxweyne maba ka hadlaayaba waayo waxyaaba badan inuu gaba hawshiisii runtaa la rabaa wax dhaqdhaqaaqaya hadda baryaan xoogaa dareen damiir aan ka arkayna xoogaa dhaqdhaqaaq yar waa ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa 4 iyo 5 wasiir oo meelaha ordaaye waa ra'yigaaga kuu gaarka cabdilaahi la socotaas itaalkeedana aan jeedna waxaa waay arrintan waa arrin taabanaysa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo aan qabiil iyo waxba aan lahayn nin mas-uulaan la hadlay wuxuu igu dayay gabdhaha waa alta jubba muxuu yidhi ka carruura taas ah war maxaa alta jubba iyo waxaan keen waa soomaalaan nahay muxuu yidhi dadkan soo qaxa waa alta jubba kuleeyahay reer muqdisho iyo reer gobolada iyo reer hawiyaba kuma jiraanba iyo daaroodba waa gartay cami waxaan jecelahay sheekada ku saabsan beelaha iyo xasaasiyad baan ka qabaa ma jecli reeraha in la soo qaado just let's stick to the point ninkaanu wuxuu difaacay ciidamada Amazon waxa uuna yidhi arrintaanu ma dhicinin waa been weeyaan Amazon baana la ceebaynaya iyo hadallo kale oo kuwa ka duwan uu yidhi markaan asaga cadaalad u sameeyno waa la soo baarayaa buu yidhi adigu Amnesty International baad u shaqaysay 7 sano haddaan si sax ku maqlay maxaa looga baahan yahay xildhibaanada Soomaaliyeed iyo waliba dawladda Soomaaliyeed wixii laga soo qoray hayaan wax cad ayaa la hayaa adeer uma baahna wax baaritaan la yiraahdo waxa kan waa wax laga danqado rabo inay dawladda iyo ummadda iyo mudanayaasha baarlamaanka dadka ay sheeganaya iyo nin kasta mas-uuliye shacabka Soomaaliyeed oo waqooyi iyo koonfur galbeed iyo bari koonfur meel kasta dibadda qurbaha meel kasta aan joogno waa waxaan aad u danqado waana taabanayaan war gabdhahan dhalnay oo aabaan nahay oo nala dhasheen oo hooyooyin waan naqanaynaa oo waxyaabo badan oo weyn la gaaro nalagu shaqadaynayo xitaa al-shabaab waayo gabdhahan tala soo qabto war hee dhahaya war waxaan xisheedaa mudan war nabad sugidda waxyaabahay samaynaysaa aad uga qada aan maaragtay uga danqanaynaa war basaraan waa hagaag cabdulaahi aad baan kugu mahad celinayaa ka qayb qaadashadaada xildhibaanku wuxuu noo sheegay inuu baarlamaanku ay arrintan ay horey u guda galeen ay ku guda jiraan ballanna wuxuu qaaday dadkii dhibaatadu gaadho hablaha halkan Soomaaliyeed inay kaamamkoodii ugu tegi doonaan soo wareysan doonaan dabadeedna dawladda Soomaaliya ay la xisaabtami doonaan dawladdana looga baahan yahay waa soo hadalka u dhigay inay u istaagto maxay tahay waxa ay u taagan tahay inay ummadda Soomaaliyeed ka difaacdo hilibkooda la boobayo ama gabdhaha Soomaaliyeed oo la kufsanayo waxaan jecelahay markaan inaan khadka telefoonka u gudbo dabadeedna Cabdiraxmaan ku soo dhaweeyay assalaamu calaykum وعليكم السلام waa ku soo dhaweynaa walaal magaca kor noo yara hadal fadlan عبدي شافي اللي شافي علي عمر shaafi xagee joogtaa South Africa برو waa gartay waad la socotay barnaamijka في أنا ولا شيء مركز عبد الحافظ the Amazon soldiers they are not coming make rape our wives the Amazon soldiers they are coming make peace Somalia Amazon guys they are not coming rape us of the women excuse me waxaad moodaa codkaaga inuu yara culus yahay waxaad ingiriiska ugu hadlaysayna maana garanin fadlan af Soomaali ku hadal hadduu kuu sahlan yahay haddii kalena afka kuu sahlan ku hadal laakiin cod kor ina qaado raalliya shaafi عبد الحفيظ maxaa dhahay askarta Amazon muu imaanin inay Soomaaliya gabdheen xoogaan waxay u imaadeen inay gabdhaheena iyo dadkeena ee isdiisu sameeyaan nolol amba la dagaal argagixiso marka Amazon marka ninkii afyaanka Amazon oo ka hadlay dhahayo
soomaaliya xeeray leedahay soomaaliya xeerkeeda ma aha gabdhaha xooga ma aha xeerkeeda soomaaliya laakiin asagu saas ma lahayn soo maaha isaga ma ahayn maya soomaaliya xeerka soomaaliya leedahay macnaheeda kamuusan wadinin hala kufsada gabdhaha soomaaliyeed waana asaga laftigiisa aanan ku xadgudbinin cabdixaafid ninka ka hadlaya afhayeenka amisom u shaqeeya hadda an askari soomaaliya dowladda soomaaliya qaladkay samayso aniga saara kawata dowladda soomaaliya dhowra aniga soomaha laakiin ma dhahay dowladda soomaaliya nagtaas waa la xoog waa la sabay ma dhahay askari soomaaliya ah marka sidee udhaa amisom marka way xoogeen oo ku leeyahay marka waxaad leedahay wuxuu leeyahay markuu leeyahay Amazon waxa uu xoogto wuxuu difaacaya ciidamada Amazon hadalkiisa ka muuqatay erey walba uu yiri walba muxuu taagan yahay ciidamada Amazon ma xoogin xildhibaanka meesha fadhiya xildhibaan qaran haduu yahay xildhibaan walba 4.5 lagu keen wax qaran hadii la yiraahdo ma jirto laakiin waxa uu imaan shaafi waxaan jecelahay insha Allah taala inaan si respect wada hadalno finally maxaad soo gabagabeynaysaa أنا محاوسو جبيني إذا ما عم يصير دبك إنه وحيان فضلا وحنوقف إن أنا جالس لاينه إيش هنوقف نجس واحدين جبي جنبه ساسا ده أنت محل يري نيو واحد مدينة تري عسكري وأنا هاي عسكري وأنا واحد دفاعه وحوارديه وضدكوا هاي كهرانا وصقوا وصفكوا رئيس تاجان موذي مركز حداد دربتين كل يندبكوا كل هذا الله إلا قافير سنة كلهم مقطع عدي حافظ أنا الكوميدي عسكري صومالي كوميدي لكن عسكري صومالي وحكوا ده عسكري صومالي وحول سمي الدولة دي سالك جبا لكن عسكري صومالي مربى معيدنا الدولة دي شافي هذا وما سنتها مدن عبد الرحمن سولو دعوة فيدو horta ra'yiga iyo dadweynaha runtii dareenkooda waxaan rabaa inaan u muujiyo annaguna dareenkaas dareen ka badan ayaa inagu jira runtii xanuun ayay leedahay waxa la sheegayo oo report ku qoran xaqiijintoodana waa taan hadee hore u ballan qaadnay waana insha Allah taala waa xaqiijin doonaa hadii Alla idmo dowladda Soomaaliya waxaan rajeynayaa iyada laftigeedu dareenkaas dareen lamid inuu ku jiro ay ka jawaabi doonto waxa meesha ku jiro waxaan ballan qaadaynaa Amazon dhibaato kasta ay geysto waa laga xisaabtami doonaa marna baarlamaan Soomaaliyeed iyo qof kasta oo damiir Soomaaliyeed leh waxa reportkaas ku qoran wuxuu aqbalaya ma laakiin waxay naga rabtaa inta mas'uuliyad qaadano oo mas'uuliyadeena ku shaqeyno inaan waxaas ka daba tagno cidii raadkaas gashana la xisaabtamo waana ballan qaadaynaa dadka marka waxa la rabaa Soomaaliya inay ku kalsoonaadaan xildhibaanadooda inay ku kalsoonaadaan dowladooda inay ku kalsoonaadaan arintan in laga seexanin inay ku kalsoonaadaan kalsoonidaas markii la helo yaa waxa dhici karta in waxaan la xaqiijiyo laakiin haddii dad iska daba hadlo aan dhihin laguma kalsoona oo waxba lagama qaban karo ama qofku iska niyajo yiraahdo waxaan wax socda waxba lagama qaban karo sax ma sidaas meeshan dawladda ka jira system baa ka jira adduunkuna waa ugu ictiraafsan dawladnimadeena oo hadda annaga gumaysi kuma jirno ciidanka Amazon noogu imaanayna gumaystaan in caawiyaan oo dawladda Soomaaliya caawiyaan inay maaragtay la dagaalanka argagixisada iyo alqaacida inay ka caawiyaan ay u imaadeen garab istaagaan oo dawladnimada Soomaaliyeed la dhiso ay umaysan imaanin wax report ku qoran haddii geysteen xisaabtankeeda waa diyaar waan la xisaabtamaynaa laakiin waxa la rabaa kalsooni in laga helo shacabka Soomaaliyeed in arrintaas lagu maqan yahay xisaabtankeeda in la keeni doono insha Allah agartay dad faraba arrinta ku saabsan la dagaalanka argagixisada iyo Amazon ciidamada wadamada ka yimaadeen wadamadaas lacag fara badan baa lagu siiyay ciidamadooda halkan ka jooga ciidamada laftigooda halkan joogana mushaarka loo kordhiyaa bonus iyo extra holidayna waa leeyihiin dad fara badan oo Soomaaliya waxay qabaan ciidamada Amazon dhowr kun oo Soomaaliya oo hawdka ku jirto taangiye haysan oo hub culus haysanin haday rabaan inay wax ka qabtaan iyo ciidamada Mareykanka oo diyaaradaha ku caawiyaba hadii la rabo in wax laga qabto waa hore la soo afjari lahaa waa makhaayad u shidan lamana rabo in la joojiyo maxaa yeelay missionka ayaa dhamaanaya iyo projectiga iyo khasabada magaca Soomaaliyeed lagu dhuuqayo macaanka badan arinta maxaa kala horta Cabdixafiid waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed adiga kula wadaago ciidan Soomaaliyeed in la dhisiyo mas'uuliyadda iskale ciidanka Soomaaliyeed iska hadlaya waxa ka hadlaya Amazon inay soo afjarto al-shabaab dagaalka lagu jiro doonay meesha Amazon horta dawladaha soo diray dawladahaasna siyaasadaha ka dambeeya anaga inta naga anfacayso horta waxa waa inay naga caawinayaan la dagaalanka argagixisada oo runtii dhibaato badan Soomaaliya ku hayo ogtahay dawladaha hadda dacmiyada laftigooda inay qayb ka qaataan oo hadda ogtahay dilka ugu dambeeyay godane hogaamiye shabaab waxa qayb ka qaatay dawladda Mareykanka oo arrintaas soo afjarta nimankan Amazon anaga inta ay naga caawinayaan oo ay garab taagan yihiin annaga waxa la rabaa inaan tafikirno aqliyad la imaano Soomaaliya hadaan nahay aynu ku xisaabtano inaan ciidan Soomaaliyeed inaan dhisano Soomaaliya maanta dhaqaalaan mayso dadkoodana waa dad hadda runtii fiican laakiin waxa la rabaa
soomaaliya inay ayada isku tashato inay ku talagasho in ciidan soomaaliyeed oo awood leh ina dhiso cidda laga sugaayana cid kale maahan ceelna uma qodno yiri ninkii cidana oo maqna soomaaliya ayada isku maqan ayada laga rabaa inay ka fikirto inta isku mashquul lahayd oo ay ku fikiri lahaayeen waxyaabaha hoose inay u istaagaan qof kasta hooyada Soomaaliyeed halkan joogto iyo wiilka Soomaaliyeed South Africa joogo iyo wiilka Muqdisho jooga waxa la rabaa inay ka fikiraan dawlad Soomaaliyeed iyo ciidan Soomaaliyeed iyo awoodda Soomaaliya si loo soo celin lahaa cid kasta ka shaqeynaysa in lagu garabsiyo laakiin haddana adiga aadan waxba bixinin oo aadan ka fikirin inaad ciidan Soomaaliyeed dhisto ama aad dawladda Soomaaliya garab siiso ama dawladda Soomaaliya waa dawlad yar oo kufkufaysa ee la garab istaago oo la taageero haddaan la helin haddii maanta la dhaleeceeyo oo la caayo oo la yiraahdo madaxweynaha hadda sidii wadaad ka soo hadlaya wadamada Scandinavian-ka uu dhahay madaxweynaha shaqadiisu gabay la yiraahdo oo la yiraahdo hebela fiican dawladda la kala fadilo oo yiraahdo hebelna waa xun yahay hebelna waa fiican yahay waxaan isleeyahay dabku bay baasiin ku sii shubaysaa wax hadda ay soo kordhinayso xigmada ma jirto waxa la rabaa in dadku aragti fiican la yimaadaan iftiimiyaan dawladnimada iyo sida lagu gaari karo ay ka shaqeeyaan wax kasta oo dhiirigelin kara dawladnimadaas in la helana in laga shaqeeyo aan dadka isku diin madaxweynaha ku amaanayna shaqo fiican uu qabtay prime minister ka shaqo uu qabtay dawladda qeybaheeda kala duwan xildhibaanadu shaqo ay qabtaan laakiin waa wadan burburay dhowr iyo 20 sano ka hor oo la rabo in hadda la soo gacan qabto marka dhibaatadaas waxay u baahan tahay si looga bixaa in shacabka dhammaan iska kaashado waa kaaga mahadcelinaa mudane cabdiraxmaan khadka telefoonka ku noqonayna insha allahu tacaala asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الحفيظ والسلام صاحبي هلا عبار بان كوهي نيسو دو عمي مقعه عفوا ابو دمرحن مقعد waa mahad juuka mahad juuke mahadi soo dhow نور ويان ka soo aan saaxib waa gartay عبد الحفيظ barnaamijkan waa barnaamij aad iyo aad noo xanuujiye qof kasta oo Soomaaliyeed aad u xanuujiye xaqiiqadii afayeenka Amazon waa nin dadaalay waa nin walaalkeen ah waa nin aan jecelnahay waa nin Soomaali ah haddana waa nin iska xoogay dhinacaas haddana Jabuutiyaan ah oo aad iyo aad aan u jecelnahay haddana muslim ah marka si wanaagsan ayuu u hadlo laakiin xoogay xilkiisa ayuu fiirsaday dee runta laga hadlo maxaa yeelay waxa la rabay inuu waxyaabaha runta sheego yara laakiin xilkiisa u fiirsaday aan ka gudubno xildhibaanka Maro Hadaatu wuxuu dhahay ciidamada ayuu wuxuu dhahay macna waxay rabaan ay sameeyaan ciidamada waxay u baahan yihiin dad ay ka cabsadaan taliyo ay u baahan yihiin laakiin Amazon nin Soomaali maanta ha sameyn saan dhihi karo ma jiro taas waxay ku dhacday la had walaana mahdi aan kugu yara biiriyo reportkan waxa ku qoran dawladda Soomaaliya inaysan ciidamada Amazon amri karinin waxna u sheegi karinin waxay khaldaan mas'uuliyadda wadamada ay ka yimaadeen oo kaliya laga xisaabtami karo isla mar ahaantaana ay ka koreeyaan sharciga maxay tahay dawladda Soomaaliya yaala ciidamada Amazon ay ka koreeyaan si kale hadaan u dhigo in dambi ay galeen lagu qaado dawladda Soomaaliya awoodna uma lahan xoogna uma lahan waa reportka sidoo ku qoran yahay marka hadii dawladii ay ka aamustay ma ku muuqataa reportkan iyo aamustaanka dawladdu inuu isleeyahay mise waxa leedahay dawladdu hawl bay ku maqan tahay waxbay soo baaraysaa in radaqsi loo xiraa loo kaadi عبد الحفيظ بس قاعد هذا دي بلي يري معناها دولته كما hadli karto waxay ka dhigan tahay inay Amazon wadanka ay leedahay Amazon waxa loogu yeeray inay wadanka leedahay ay ka turjumayso dayba dawladda ka hadli karin reportkan xaqiiqada hadii laga warramo waa xaqiiqo waa maxaa yeelay reportay badan ay soo saartay oo la dafri jiray soo ayada ma ahan mas'uuliyiinta dawladda wixii dhaliili jirto soo ayada ma aha waxyaabo badan aniga la fikirkay goob joog aan u hayaa jirto ay kamid ah hadda kor 50 may dil ka dhacay oo dad rayada la xabariyo meesha lagu baaba'ay waa sheegtay marka runtii hay'adan inta badan runtii ka hadashaa aad u mahadsan tahay waxaan jeclahay dadweynaha Soomaaliyeed in marka la xasuusiyo kaysaska la soo oogay mid iyo laba kamid ah waxay kale ugu magac dareen sex trade waa paragraph page-ka labaad uu ku jira paragraph-kiisa labaad weeyaan waxa uu leeyahay sex trade inay Amazon raashinka ay ku iibsadaan gabdhaha baahidooda kaga faa'iideystaan oo markaas ay ku soo xirigeliyaan sidaas waa arin Amazon baseskeeda ka dhacda gaar ahaan kuwa Uganda iyo Burundi routine ayayna dhacdaa routine-ku waxa soo noqnoqda oo joogtada u dhacaweeye haddaan aan kula hadlayno oo maalintii Monday-da bahalkan la release gareeyna still ongoing ilaa ay haatan arinta ayada waa socotaa taas waa mid kale hooyo Soomaaliyeed ayaa jirtay iyadoo laftigeedu ay baahi haysay iyo daawo la'aan haysay ilmo yar oo dhasho saqiira daawo soo doontay markii ay meeshii timidna mid Soomaaliyeed baa ku yiri oo turjumana qolka dambe ayaa daawo ka helaysaa tag halkaas oo askari diyaar u ahaa inuu xoogo ama fuulo ama faraxumeeyo uu kula kulmay markii ay diidayna
uu dharbaaxo kala daalay waxaana damcay bay tiri inaan cagaha wax ka dayo cararo laakiin waxaan xasuustay bay tiri saqiirkii yarkaha iga dambeeyey oo ooyayey dabadeedna markaas ayuu halkaa ku kufsaday dhinaca kalena maqsinka ku dhegan 3 kale oo dumar oo Soomaali ayaa saas oo kale loo kufsaday markay diideen qaar ka midana waxaa loo geystay jirjil iyo weliba hadallada qofka insaanka shakhsiyadiisa hoose moraalkiisa hoos u dhigayo oo foosha xun waxba ma tiid oo kale waxyaalaha la midka ah oo doonayna halkan ka iraahdo dabadeedna 3 gabdhood markii ay meeshii ka soo baxeen ayagoo la wada kufsaday oo hooyooyin ahaa mid ka mid ah ayaa istaagi kari weyday oo istaaga ka dhacday labadii kale ayaa qaaday markay qaadeen labadii kale oo albaabka ay ka sii baxayeen ayaa ciidamadii Amazon ka daba yimaadeen gaar ahaan kuwa Burundi warqadda waxaan akhrinayaa waa reportkii oo sidiisa ah just of Somali baan ku bedelayaa kaliya san noo fahantaan qaarkiin dabadeedna waxay nooga daba yimaadeen bay yiraahdeen albaabkan ka baxaynay bay nooga daba yimaadeen waxayna la siiyeen in yar oo boorasho iyo xoogaa yar ah oo cookie ama biscuit ama cake waxa tiraahdidba ayayna siiyeen saddexdooda marka la isku darana waxa la siiyay $5 khad kale ku xiga assalaamu calaykum hello السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سو دhow walaal magaca war gabadh bay la hadashaan u sheegay cadaawa la yiraahdo London ma ka soo hadlay maxaa lagu yiraahdaa cadaawe ku soo dhaweynayaa barnaamijka la socodsi waa la socday maxaa kaaga baxay waxa iga baxay afayeenka kolkan ka hadlo horta waa nin shaqaysanaya qoladii la isku haleynayay wadanka difaacaysi baan u arkaa Soomaalidu maadaamay hebel isku haystaan isagii wixii waa la baarayaa buu yidhi Soomaalidu inta badan isaga eedeynaysaa ay ku dhiganta ma kula tahay waxa loo eedeynaya inay tahay inuusan oranin arrinta waa soo baarayna hana laga warsugo uu yiri arrintaanu maba dhicinin waa fadeexad weeyaan wax jirana maaha markii aan in badan la challenge gareeyay kadibna uu yiri waanu soo baarayna isbedelay anigu wax horaan TV-gan uga soo joogay Cabdixafiid adigu ku dhaada waad buunbuuninaysaa waan shaqaysanaysaa waa shaqaysanaya waxaan ku faraxsanahay inaan shaqaysanayo gabadha Soomaaliyeed oo kaamka ku jirta oo 10 nin oo Burundiga fuushay oo codka lahayna aan codkayga ku biiriyo anigoon cidna waji uga doonayn Allah subhanahu wa ta'ala mooyaane ka gudub ninkaan wuxuu yiri cali wuxuu yiri arrintaanu ma dhicin wuuna diiday waxa uu leeyahay human rights waxay soo qoreen waxa jira maahana fadeexad weeye dadka Soomaalida waxa kiciye kaas weeye mar dambe ayuu dib ka yiri waanu soo baarayna wixii dhacwaana ka xunay Soomaa horta adigu human rights waad aaminsan tahay laakiin aanu ma aaminsani labo Soomaalidu ma aragtay dhibkan iyada isku geysatay saddex dadka tamarta yar leh bay human rights wax ka sheegtaa laakiin Guantanamo Bay markii muslimka lagu hasuuqay si doona laga yeelay hadii loona Iraq lagu fuulay rag ay naago askari ku fuulayeen ka hadashay ma jirto cadaawa waxaad moodaa waxyaalo fara badan inaadan la soconin markii xeradaas kaamka Kuuba ku yaala Guantanamo Bay ma kara meeshaas waxay ka soo qoreen human rights ku warqado ka badan dhowr iyo 70 page bay ka soo qoreen waxa laga yaabaa adigu inaadan ku arkin aadan la soconin Ciraaqna intaas oo kale ayay ka qoreen afhayeenka Amazon waxa uu beeniyay uuna diiday arrintaanu inay dhacday haba yaraatee mar dambe ayuu yiri waanu soo baarayna waa mahadsantahay cadaawa waqtiina ku siiyo marinaa goodbye thank you khad kale ku xiga assalaamu calaykum wa calaykum salaam wa rahma ku soo dhaweynaa gabar Soomaaliyeed magaca ubaxa la dhaabo ubaxa xagee ka soo wacaysaa UK barnaamijka wala socotay ubax si fiican maxaa kaaga baxay horta waan ka xumahay wax gabdhaha Soomaalida lagu sameeynayo teeda kale afyeenka soo hadlaayeen oo ku faraxsanin maadaama oo gabdhaha Soomaaliyeed nahay laakiin waxa dhan waxa mas'uulka ah ragga Soomaalida oo u turjubaanayo dadka Islaamka ah oo daruufta haysato maxaa yeelay qofka hadii oo ama daawo soo doonto ama uu raashin soo doonto oo dan hayso markuu meesha yimaado waxa la rabaa inuu qofkan kale haduu dhaxta gabar Soomaaliga isoo gali ama waa rabaa inuu idib yeelo uu dhaho haduu laakiin asiga waayaha uu dhaho haduu problema ka imaana gabdhihii Soomaalida teeda kaleeto hadii xataa bari inta ninkan maxkamadda lagu qaado oo la soo istaajiyo oo maxaa haysto Amazon-ka oo la maxkamadeeyo bari qofka kaleeto hadana yimaado oo askari oo Amazon wuxuu sameynayaa
gabdhihii haddana usoo xareynaa marka waxa fidnada wada waa dadka meesha turjubaanka ahoo barbaramka u keenaya gabdhaha soomaalida arrintaas waa gartay si kastoo nin soomaaliyeed ama 2 ama 3 arrintaa ay uga shaqaynayso dowladda soomaaliyeed xil baa ka saaran waxa ay ficilka ay samaynayaan ciidamada Amazon oo ay kaga faa'iideysanayaan hooyooyinka iyo gabdhaha yararka 12 jirada oo nimanka waaweyn ay fuulayaan barqadii ay kufsanayaan markay diidaan jirdidka ay u deysanayaan dowladda Soomaaliya waa maxay wax fariinta u fariisay dowladda Soomaalida ayada waxa loo baahan yahay inay ka hadasho kale maadaama ay dowlad ay tahay ma ahan inay maxaa ahayto ay iska aamusto ugu dambeyntii xildhibaanka maxaad ku oranaysaa xildhibaanka waxaan ku oranayaa inuu arrintan uu galo oo macal gabdhaha loo ogaado si qaas loo ogaado iyo hooyooyinka teeda kaleeto maadaama oo gabdhahan daruuf ay hayso danna ay meesha u soo aadeen daruufta jirta awgeed caruurna ka soo tagteen ayagu waxaa la markii inay si qaas u ogaadaan oo dad oo macnaha oo ogaanaya inay meesha istaajiyaan oo la caawiyo oo ma ahan in la xoogo ama oo wax oo nafsadooda dib u keenayo lagu sameeyo aad baa u mahadsantahay wax waa kaaga mahad celinaya khad kale oo ku xiga haddaan u gudubno السلام عليكم هلاو هلاو السلام عليكم عليكم السلام سولو ولا المقعة magacay waa cabdi dheere cabdi dheere xagee joogtaa waxaan joogaa masar aan joogaa maasha allah barnaamijka si fiican aa ula socdaa marka waan dareensanahay dareenkaygana aad u kacsan yahay maxaa yeelay waxa hadda oo dhacay waxa waaye yani gabdhaha Soomaaliyeed iyo maamooyinkii in yani kufsi loo geysanayo waa waxaan ka danqanay ilaa hadda aan la joogi laana xataa waxaan isku dayay xitaa inaan soo galo wax badan soo galo balse laakiin wax badan waa ii geli waayey marka hadda dareenkayga waxaan ka dhiibanayaa inay tahay dareen aad u kacsan waa gartay maadaama dareenkaa uu kacsan yahay nin Soomaaliyeed aad tahay aabba Soomaaliyeed aad tahay ama aad noqon doontid markaad aragtid hooyo Soomaaliyeed oo ilmaheedii yarka ahaa xanuunsan daawo u soo doontay dabadeedna dhafoorka xabad laga saaray dabadeedna 5 nin oo Burundi ay midba uu mar fuulay ayadoo loogaga faa'iideysanayo baahida iyo dhibaatada haysata laga yaabo inaysan quraacnin laga yaabo inaysan qadeyninin laakiin xanuunka hooyanimada uu wado ayna ka fakaraysa saqiirka ay ka soo tagtay dareen intee la eg bay kugu abuuraysa wallahi horta dareenka wuxuu u abuuro waxa waaye hooyo Soomaaliyeed oo haysan wax ku tirto yani mise shaqo aan haysan mise daawo aan haysan oo haddana u soo doonatay in yani ay maxaa la dhahayo ay daawo ka doonto haddana jir kufsigaas iyo waxyaalahaas loo geystay oo waxaan ka danqanaynaa dowladda Soomaaliyeed wax keliya oo iyada looga baahan yahay waxa waaye in yani dadkeeda iyo dalkeeda iyo maxaa la dhahayo diinteeda inay ku dhaqo yani ay ogaato balse laakiin inta ogaaweysa ka fikiraya waxa waaye inay lacagta qaataan oo kaliya run hadii la rabo balse laakiin hadda cabdi dheere waxa weeyaan arrintaas waa ra'yi adiga ku gaara anagu mid xaqiijin kara maahan fursadan ku sii waa kaaga mahad celinaya waxaan jecelahay inaan markaan idiin soo dayno videogii qayb ka mid ah dabadeedna cabdiraxmaan iyo teleefanadan dib ugu soo noqono bal videogan hadda idiin soo dayna haddii la yidhaahdo farsamo yaqaanadeena ayaa idin daawasho wacan capital of Mogadishu. And since then, over the years, the mission has increased, has received increasing support, and I think everyone will agree is increasingly playing quite a key role in Somalia and is likely to continue to have an impact on the future of Somalia. Now, with this in mind, our research has actually found that despite the significant support given to Amazon, because it has been credited with having helped move al-Shabaab out of Mogadishu and out of other key towns in south-central Somalia, certain Amazon soldiers have also abused the power and the support they have been granted. Now, in this report, what we find is that certain Amazon soldiers from the Ugandan and Burundian forces in Mogadishu over the last year have been abusing their power to sexually exploit, which is basically the use of power, the abuse of vulnerability for sexual favors, but have also sexually abused, raped women and girls on 2 of their main bases in Mogadishu.
Now, what we find is that, so this research is based primarily on interviews with survivors of sexual exploitation and abuse, although, as I will describe later, we have also focused our research on what are troop contributing countries, in this case Uganda and Burundi, who obviously have jurisdiction over their forces, who are the main responsible for misconduct by their forces. What have they been doing specifically on this issue? What we find is that there are a range of tactics which have been used by the Amazon soldiers in Somalia to lure in and coerce women and girls. One of the most alarming findings in this report is how much Amazon soldiers have actually used humanitarian assistance, and particularly medical assistance, to lure in women and girls. So what we found was that actually when women and girls are going on to the outpatient departments on two of the main bases in Mogadishu, and this is particularly the case, I would say, on the Burundian contingent base, they go in to get medication. hagaag aan cajaladaas inaan idin dhamaystirnaan jeclaan lahay laakiin duruuftaan noo diiday inkastoo aad ka heli doontaan website-keena tv-ga universal.net waa hagaag khad kale ku xiga asalaamu calaykum hallow soo dhow walaal tv-ga iska baktiya magaca waxaa la yidhaha ruqya xagee joogtaa waxaan joogaa London barnaamijka waa la socotay waa la socday si fiican waana ka calool xumooday weliba maxaa ku calool xumeeyey waxa ay calool xumay aniga haddaan ka imaaday Muqdisho 2 weeks ago aan ka imaaday Muqdisho waa gartay waana arkay nolosha taalla iyo siday tahay dadkaas hadlaayana ma beenaysanayo waa gartay Muqdisho waxa yaala ninkii qori haysta ama qofka kale ka xoog badan ayaa power haysta wax maskiin leerana looma naxo aniga ruqyo kula hadlaaya airport markaan soo galay boorso yaroon baatiyaal ku watay waxaa laygu yiri waa inaad canshuur dhiibtaa waxaan ku iri boorsada fura la yiri waan furay waxaa la yiri waa inaad canshuur dhiibta boorso yaroo 25 kiilo ku jirtayna ahay canshuur waa inaad dhiibta markii la yiri waxaan weydiiyey anigoo taagan weli ayaa waxa yimid ninka indha cadda la yiraahdo oo boorso weyn oo xiran wata meeshuu soo dhigtay wuxuu yiri boorsadii markuu soo dhigtaa la yiri waa inaa furtaa boorsada furaheedii keen qufulaa ku xirnaa furihii kan markii la yiri wuxuu yiri anigu wadani baan ahay uu yiri see boorsadayda loo furaaya waa gartay markaan kasoo tagno sinaan la-aantaas aad sheegaysid oo adigu aad noo sheegayso anagoo aan xaqiijin karinin ruqyo barnaamijkan aan ka hadlaynana aan u nimaadno markaad maqashid kufsiyadan iyo tacadiyada loo geysanayo dumarka Soomaaliyeed ee reportkan uu soo oo reportkan ku cad maxaad leedahay ummadda Soomaaliyeed oo mas'uuliyiinta Soomaaliyeed xildhibaanka ugu horeeya halkan ila fadhiya way mudan yihiin inay ka qabtaan arrintan wallahi waxaan leeyahay horta waan ka xumahay gabdhaha Soomaaliyeed waxa ku dhacay oo aniga ila mid hoo jirkayga kale leh xildhibaanka iyo qofka kasta oo Soomaaliya mas'uulka ah wuxuu ha ogaada nin walba maalintii yawmal qiyaamah mas'uuliyadii la raaciyay in laga rabo waana inay u naxaan dadkooda waxa dhibka looga tagayana waa dadkoodii waa walaalahood waa ilmahoodii waa gabdhahoodii waa ehelkii ay iyaga lahaayeen oo mas'uuliyadda loogu soo dhiibay haddii ay taas sameeyaanna waxa dhacaysa aamin darro dambe oo nin Soomaali oo madaxa aan la aamin berita ka maalina oo imaan doono nin wadanka aan u dhal oo u dhaama ninkii wadanka u dhashay waa hagaag ruqyo waa kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga iyo qayb qaadashadaada iyo maaragtay adigu inaad Muqdisho dhawaan ka timid oo soo aragtay waxyaalaha dhacay inay wax suurtagal yihiin saa hadalka u dhigtay waa mahadsan tahay waxaan qaadaynaa khadkii telefoonka ugu dambeeyay waana in ka raali gelinayaa inaan ka wada qayb qaadan karinin waanu jeclaan lahayn inaan sii wadno laakiin warkii baa fooda nagu soo haya waxaan jeclahay markaana qofka u dambeeya fursad siiya dabadeedna soo gabagabayna asalaamu calaykum الو السلام عليكم. waxaa tahay qofkii u dambeeyay saaxiibo magaca xagee iska joogtaa waxaan lahaa Suleyman Cabdullaahi. Suleyman Suleyman Cabdullaahi. waa gartay Suleyman barnaamijka waa la socotay dabcan barnaamijka aad baan u socday dhammaad la bilow waa la socday horta marka hore soo ku salaamayaa xildhibaankana aad baan u salaamayaa waxaan dowladda baa ugu dirayaa kufsiga loo geysanayo hablaha Soomaaliyeed oo barmigeetada oo dhibaatada haysata oo haddana cabashada u aadayaan dibka u aadayaan baahidooda loogu bedelayo dulmi iyo fawaaxish aan la dulqaadi karin waxaan xildhibaanka baa ugu dirayaa
xildhibaanka in oo arrintan kasoo jawaabo waxa loo discussion ku sameeyo waa gartay la soo istaajiyo maxkamad waxaan kaloo haddana aad ugu xumahay ragga Soomaaliyeed hablaheena iibsanaya waxaan dawladda baa ugu diray raggaas in marnaba la cafinayn maxkamadda soo istaajiyo aad baa u mahadsantahay Suleymaan Cabdullaahi waxaa qofkii u dambeeyay khadka telefoonka kelimada u dambaysa waxaan jecelahay xildhibaan Cabdiraxmaan inaan siiyo oo aan uga mahad celinaynay hordhici barnaamijkan haddana uga mahad celinay inuu nagala qayb qaatay waqtigiisana noo soo haray mudan Cabdiraxmaan waa mahadsantahay Cabdixafiid mar labaadna kaaga mahadnaqayaa abaabulka barnaamijkan annagana dee saa hore kugu sheegay waa ballan qaadayna insha allahu tacaala mar labaadna ku celinaya sababto riboodka hadda waxaa ku qoran in la dabagalo la xaqiijiyo u baahan yahay sababtoo hadda gobol Soomaaliyeed inta TV-ga timid ama idaacadda ka hadashay oo wax sheegtay ma jire ribood la soo qoray waaye waana runtii dareenkaasna hadduu saas hadda ay u qoreen uu jiro markaan soo xaqiijino ayaa ogaa doontaan Soomaaliduna ogaa doontaa mowqifka iyaga iyo meesha aan ka joogno cid kasta oo arrintaas ku lug lehna waa la xisaabtami doonaa meel ummadda Soomaaliyeed iyo adduunkaba ay joogaan waa lagu la xisaabtami doonaa looga hari maayo qofkan inuu Amazon yahay iyo inuu qolo kale yahay ciidamada Amazon ayuu dadaalka faraha badan noo sameynayaan waa ugu hambalyeynayna runtii oo fiican oo dawladda Soomaaliya garab istaagayaan wax kasta oo khalad ah geystaan waa kala xisaabtamayna shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa runtii inay dawladooda aaminaan garabna siiyaan wax kasta oo dawladda taageeri karo oo garab istaagi karo oo la shaqeyn kara inay loo geysto wax kasta oo taageeri karaan laga shaqeeyo meediyaha gaar ahaan inuu aad u taageero runtii oo dadka wax kasta oo ummadaas iyo dawladnimadooda hagaajin karo oo isku soo dhaweyn karo ayaga iyo dawladooda iyo dawladda iyo Amazon in laga shaqeeyo aan laga shaqeyn wax kasta oo ummadda kala fogeyn karo oo isku maaratay kala irdheyn karo Soomaaliya loo laatan dhibaato ku jirtay waxa looga bixi karaa waxa waa midnimo iyo isgarab istaag midnimo iyo garab istaag in la helo dawladdan lagu kalsoonaado annaguna waa shaqeyn doonaa annagoo riski iyo dhibaato badan runtii waddanka ka jira ogtihiin yaan haddana waxaan diyaar u nahay inaan nafteena iyo waqtigeena aan gelino dawladnimada Soomaaliya inaan ka wada shaqeyno marka shacabka Soomaaliyeed ugu baaqaya waana rajeynaya insha Allah taala waqti dhow inaan reportkaas jawaab ka dhiibno haddaan baarlamaanka Soomaaliya haddaan waa maasanta حلوان عبد الرحمن أدنكم مدحين قناة فرنشكن thank you very much خير الله كسي وحقاق فرسمضوا وعبد الحكيم الفقي وسيها قرلانا وقهقر بحي برنامج كان ساك أرورتي إلا هاتن يولي الأستاذ محمد بيباي أن وحن كلاو جعلنا نوم هذا عليو قاسمها تي في يونيفرسال عبد الله حرسي وقيب وين كقاتي يولي صاحبك على الناجي لفتي سو قيب وين كها برنامج كان وحا يدين سو صاري أن عبد الله مطهر أنا وعبد الحفيظ محمود الشامع أنا وحن يدين سعودسينا برنامج كان يونيفرسال تي في هاتو intaanu kanoo kala dib ugu kulmi doono inaanan aamusi doonin ogaada shacabka Soomaaliyeedna codkooda aan hadli karin inaan u hadli doono hadii Ilaahay taqwada Ilaahay midnimo. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.